falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij aalaaba looga faalloodo arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo wararka iyo warbixinada degdega ah ee markaasi ku soo kordha xaaladda Soomaaliya iyo guud ahaanba geeska Afrika. barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij ay ka qayb qaataan rugcadaas siyaasadeed iyo weliba aqoon-yahano ku xeel dheer xaaladaha markaasi laga hadlayo. barnaamijkan waxaad ka daalacan kartaa ama ka daawan kartaa telefishinka caalamiga ee Somali Channel toddobaadkii 2 jeer. marfuumaysniba dad ajaaniba gurigaaga ku dhistay ma rumaysniba marka anigu waxaan leeyahay hadii la rabo guriga in la dhiso Soomaali waa inay dhisataa awoodeeda wax kasta ha noqoto awoodeeda iyo caqligeeda iyo midnimadeeda waa inay ku dhisataa adigu hadda siyaasi tahay waa ku khasban tahay inaad la hadasho cid walba Uganda waa ku khasbanahay bacdama ciidamo badan meesha ka joogan ciidanaha Itoobiya leedahay wax umada ka dahsoon ma qofka Soomaaliga maanta ee wax garadka mas'uulkii uu garan karaa anoo aan qabaa Itoobiya hadday nabad ka rabto aaga geeska Afrika dawladdan maanta bilaabantay waxay noqon kartaa mid ay gacan siin karto arintan Soomaaliya waxaan u maleynayaa haddii ay sii socoto oo say maanta ku socoto ay ku socoto ana waxaan qabaa dabka Soomaaliya ka baxaya waa kii Itoobiya gaari doona lafteeda dadka banaanka ka joogo inagu aan ka mid ka nahay ba arkaya inay nimanka khaldan yihiin sababtu waa maxay go back to the history magaalo islaam degan yahay bay ku duulay qabtay anaga xukuna adduunkana ma dhicin wali taariikhda islaamka ma soo marin dawlad islaama in dad islaami ku duulay anaga qabsanay oo kula mujaahidiin marna kitaabka Allah rabna koraan qad waxyaabo fara badan baa aan wax badan ka hadlay oo shabaabtu khaladaadkooda waa leeyihiin laakiin waxaan u arkaa khaladaadka shabaabta hadday 10% kaga dhaqmayaan diinta islaamka waxa ka xun kuwa gaalada soo adeegsaday ee boqolkiiba boqol dadkii barakiciyay ee madaafiicda ku burburiyay wadankii ee dalka baabi'iyay ee haddana aan zero kaga dhaqmin shariicada islaamka akam waxaana aad ka daalacan kartaa sidaas oo kale www.dhacdooyinka.com wixii talo iyo tusaale ah waxaad noogu soo gudbin kartaa falanqaynta @dhacdooyinka.com barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka dhacdooyinka waxaa fududeysay shirkadda duulimaadka ee Juba Airways. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha leh meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa magaalada London. barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka daawadayaal caawa waxaanu ku soo qaadi doonaa qodobo ay ka mid yihiin ciidamada huwanta ama ciidamada dawladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen ama dawladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay ciidamadeedu ku baxsanayso gudaha Soomaaliya xarakada al-shabaab ciidamo Kenyana oo wata dabaabaadka iyo diyaaradaha qumaata u kaca ayaa waxa lagu arkayay gudaha wadanka Soomaaliya iyagoo markaasi wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Kenya ay markaasi shaaca ka qaadeen in ciidamada Kenya ay markaasi xaq u leeyihiin in ay gudaha u galaan isla markaana isdifaacaan wasiiradu waxa ay sheegeen in markii ay soo baxday dhibaatooyin badan oo loo geysanayo dalka Kenya isla markaana afduub lagu sameeyay qaybo kamida gudaha wadanka Kenya in markaasi talaabadaasi ay go'aansadeen dawladda Kenya muddadii 20 sano ahayd ee burburka uu ka jiray wadanka Soomaaliya waxay ahayd dawladda kaliya ee ciidamadeedu aanay soo ataagin gudaha wadanka Soomaaliya dawladda Kenya sida la socotaan waa dawlad dalkeeda ay ku nool yihiin qaxooti badan oo Soomaaliyeed dad badan ayaa hanti ku leh oo daaro iyo ganacsi kala duwan ku leh waxaa jiray in ay gacmo furan ku soo dhaweysay dawladda Kenya shacbiga Soomaaliyeed hadday ahaan laayeen kuwa qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku yaala waqooyiga bari ee wadanka Kenya dad badan ayaa ku nool magaalada Nairobi oo ganacsi kala duwan ku leh dawladda Kenya marka sababta ay maanta talaabadaas u qaaday ayay ku tilmaameen in ay tahay markii ay u adkeysan waayeen weerarada ka dhanka ah ee lagu soo qaadayo
waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay kaga imaanayaan xarakada al-shabaab oo iyadu ka dagaalamaysa gudaha wadanka Soomaaliya. haddaba saaxiibayaal, barnaamijku waa maxay ujeedada xilligan ay dowladda Kenya go'aansatay inay ciidamadeedu gudaha u galaan dalka Soomaaliya? ma ka haysataa amar dowladda kumeel gaarka ah ee la aqoonsan yahay? dowladda kumeel gaarka qudheedu sidee bay u aragtaa in ciidamada Kenya ay soo galaan gudaha wadanka Soomaaliya? xarakada al-shabaab iyadu ma isu aragtaa in dhibaatooyinka ku dhacaya dalka Soomaaliya ay iyadu mas'uul ka tahay oo magaceeda iyo waxyaabaha ay sameynayso oo ay gudaha Soomaaliya ka sameynayso in mar walba loogu soo dugaalayo oo markaasi marmarsiyo looga dhiganayo in markaa la soo galo oo mas'uuliyadaas iyadu ma qaadanaysaa? waxaa haddaba barnaamijka ila fadhiya oo igala qayb galaya Professor Maxamuud Guure oo isagu ah nin inta badan arrimaha siyaasadda falanqeeya, waa gudoomiyaha ururka Somali Concern Group, wax badanna nagala qayb qaatay doodaha kala duwan. dhinaca khadadka telefoonada waxaa nagala qayb qaadan doonaa xubno isugu jira siyaasiyiin kala duwan. waxaa sida aad shaashada ka arkaysaan xubnaha caawa barnaamijkan martida ku ah waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Xuseen Carab. waxaa kaloo ka mid ah Sheekh Xasan Daahir Aweys oo isaguna ah sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab. waxaa kale oo isaguna ka mid ah Sheekh Axmed Madoobe oo aad ku taqaanaan inuu yahay gudoomiyihii maxkamadaha islaamka ee gobolada Jubbooyinka sanadii 2006 dabayaaqadeedii. haddana waa gudoomiyaha ururka Raskamboni ee isagu ka dagaalamaya gobolada Jubbooyinka ee isbahaysiga huwanta dowladda kumeel gaarka ah Raskamboni iyo ciidamada Kenya ay hadda la dagaalamayaan xarakada al-shabaab. waxaa haddaba iyaguna marti inoogu ah sida idin muuqata waa Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo Birmingham ku sugan. waxaa kaloo isaguna marti inoogu ah Dr. Maxamed Maxamuud Culusow oo dalka Mareykanka jooga, aqoonyahan dhinaca siyaasadda ku xeel dheer ah. haddaba daawadayaal, barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka oo inta badan aan diiradda ku saarno waxyaabaha markaasi xasaasiga ah ee toddobaadyadaasi dhacaya ama maalmahaasi dhacaya, ayaan rajaynaynaa caawo inuu dadka xiise gaara u yeelan doono daawadayaasheena qiimaha leh. haddaba aan ku bilaabo marka hore dowladda Kenya qaabkii ay ugu dhawaaqday markii ay intii aanay maanta imaanin magaalada Muqdisho oo wala socotaan wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa yimid. hase ahaatee iyagoo qalabka warbaahinta caalamka waraysi siinaya ayay sidan ku hanjabayaan. waa wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee marka hore nala daawada iyaga oo English ku hadlaya. That if you are attacked by an enemy, you have the right to pursue that enemy through hot pursuit and try to reach wherever he is. Not only within the border, between the border of Kenya and Somalia, but also including inland, the towns and all the others, the strategic installations, because that is how the terrorists normally work. To the extent, first and foremost, we are not dealing with a kind of an army, which you can now see. It comes in all forms. It comes in all kinds of disguises. And therefore they can always play all these games. Tunajaribu kusukuma al-Shabaab mbali na mpaka yetu. That's what we mean hot pursuit. For the first time, our country is threatened with the most serious level of terrorism. First and foremost, we have now closed the border. We are going to embark on thorough screening of the people who are there. Why have they been reluctant to assist the Kenyans security forces to be enhanced more properly? Why? And yet they want us to have the largest refugee camp in this world, the largest refugee camp in the world, in this country. And our people are the ones to suffer. We have, let me put it this way very clearly, our accountability is to the Kenyan people and to this country. aad ka daawanayseen telefishinka Somali Channel
waxay ahaayeen wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba markii ay tallaabadan ciidamadoodu ay ku soo galayeen gudaha waddanka Soomaaliya ay qaadanayeen ayay waxay hanjabaad ku bixiyeen in dowladda Kenya ay xaq u leedahay inay isdifaacdo isla markaana ay meel kasta ku baacsan karayso al-shabaab hadday ahaan lahayd gudaha Soomaaliya ama hadday ahaan lahayd gudaha waddanka Kenya waxay kaloo ay sheegeen in bad iyo bariba ay xaq u leeyihiin inay al-shabaab ku baacsadaan waxay yiraahdeen kaliya ma ahan inaanu difaacayno xuduudda laakiin waxaynu doonaynaa xitaa inaan gudaha u galno dhinaca waddanka Soomaaliya iyagoo markaasi ka hadlaya qalabka warbaahinta caalamka haddaba sidoo kale waxaa sidaas oo kale isaguna qalabka warbaahinta la hadlay Maxamed Cali America oo ah ambassadorka u fadhiya waddanka Kenya dalka Soomaaliya isagoo wax laga weydiiyay ciidamada Kenya in ay xaq u leeyihiin inay gudaha Soomaaliya u galaan waxaan uu ku jawaabay Kenya government really as I said earlier it has its duty to defend itself and to protect its territory and its people they are the ones who went there and there's nothing wrong with that for them to defend its people and its territory Maxamed Cali America waa ambassadorka u fadhiya waddanka Kenya waddanka Kenya ayuu Soomaaliya u fadhiyaa oo waa ambassadorka hadda ku sugan magaalada Nairobi safaaradda ay Soomaalidu ku leedahay waxa uu yiri Kenya xaq bay u leedahay in ay istifaacdo kadib markii ay weerar ama lagu soo qaaday taasina waxay ka dhigan tahay in Kenya ay meel walba ay isku difaaci karayso haddaba markii hadalkaasi uu soo baxay sida muuqata ee ay hanjabaadaasi sameeyeen wakaaladaha wararkuna inta badan ay qoreen in ciidamada Kenya waliba wasiirka gaashaandhiggu waxa uu yiri xitaa apologize ama cudurdaar kama bixinayno in aanu gudaha Soomaaliya ku baacsano al-shabaab ayuu yiri marka iyadoo taa markii hore ay dhagaha ku dhaceen ayaa maanta waxaa gaaray magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kenya iyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya waxaanay shir jira si wada jir ugu qabateen magaalada Muqdisho ay si wada jir ugu qabteen iyagoo markaasi la hadlay warbaahinta gudaha iyo dibadda haddaba warbixin wariyahana Cabdulqaadir Ali Xuseen Koronto uu nooga soo diray magaalada Muqdisho iyadana balnala daawada wafdigani ka socday waddanka Kenya oo ay hogaaminayeen wasiirka arrimaha dibadda Kenya Moses Wetangula iyo wasiirka gaashaandhigga Yusuf Xaaji ayaa waxa ay kulamo la qaateen madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka Soomaaliya kulamada kadib ayaa shir jiraayid oo ay si wada jir ah u qabteen mas'uuliyiinta dawladda iyo xubnaha wafdiga ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay wada gaareen heshiis ku aadan iskaashi dhan walba isagoona xusay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dagaalka ay kula jiraan xarakatu shabaab waxaan doonayaa dhageysiyo maanta inaan saragnay waqtiga noo yimi Kenya nooga yimi oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka difaaca Kenya waxaan ku wada hadlaynay mushkiladda naga haysata shabaab region ka haysata oo ku ah dhibaato labada dalba xagga gargaarka bini'aadanimada xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo marka loo eego region kooda marka waxaan goosanay inaan iska caawino sidii loola dagaalami lahaa khatartan xoogga leh ee region soo gashay xagga al-shabaab ka timi inaan iska caawino dhinac kasta ha noqoto xagga siyaasadda xagga militariga xagga dhaqaalaha iyo si kastaba marka anagoo eegayna shuruucda u taalla eegay tan kale waxaan doonaynaa dhegeysano madaxweynaha iyo prime ministerkuba inay supportkooda ay daba dhigeen heshiiskan aan gaadhnay wixii maanta ka dambeeyana aanu iska kaashanayno xagga isgaarsiinta wada hadalka iyo informationka si loo sheergarayo isla wada socodsa laba dhinacba si loo yeesho loola dagaalamo cadowgana soo ataagay inagoo iskaashanayna dhinac walba wasiirka arrimaha dibadda Kenya Moses Wetangula
oo isna dhankooda ka warbixiyey ayaa waxa uu xusay in heshiiska uu ku salaysan yahay sidii labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen dhan walba isla markaana xiriir wanaagsan uu u dhex mari lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo kan Kenya. This end we have agreed will be continuous joint consultative meetings that will make sure and ensure that what we have started in the past. wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Yusuf Haji oo ay saxaafaddu su'aalo dhowr ka weydiisay ciidamadii Kenya ee la sheegay inay ka soo talaabeen xadka Soomaaliya ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidamadooda ay soo galeen Soomaaliya balse waxa uu tilmaamay in ciidamadaasi ay yihiin askar ay u tababareen dowladda ku meel gaarka Soomaaliya. ciidamada Kenya oo Soomaaliya soo galeen ma jiraan haday ka tayi wayso askartii TFG wadawada ugu tababaray waddanka Kenya ayaa la dagaalamaya al-shabaab markana waxa lagu taqaano Jason Kondo ayaa mucaawinaya wal heshiis oo ciidamada ay Soomaaliya ka dagaalamaya ilaa laakiin waxa lagu heshiiyay labada dhinacba in aan caawinayno sida al-shabaab loola dagaalamayo hada dowladda TFG lagu taxliilay dagaalka xulga ay qaadeen al-shabaab iska soo fiiriyeen haddana al-shabaab ay ugu imaadeen xuduudka Kenya xaqba ilaa iska imaatinka wafdigani ka socday Kenya ee heshiiska la saxiixday dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo si weyn loo hadalhayo ciidamo ka socday waddanka Kenya oo gudaha u soo galay xadka Soomaaliya. waa tahay daawadayaal waxaad wada daawateen kilabyadii kala duwanaa ee aanu ka soo qaadanay tii maanta shirkii ay ku qabteen xarunta Villa Soomaaliya xarunta madaxtooyada iyo waliba shirarkii hore ee ay ku qabteen waddanka Kenya magaalada madaxiisa Nairobi. waxay la fadhiya Professor Maxamed Guure gudoomiyaha ururka Somali Concern Group waa daawanaysay waxyaabihii hadeertaan iyo sida ay u hadleen marka adigu marka inta badan siyaasadda waa la socotaa maxaa hadda kaaga baxay hadaladii kala duwanaa ee aad daawanaysay. xasan horta waa mahadsan tahay barnaamijkan runtii maanta waa barnaamij aad u xiiso badan oo aan uga hadli doono haddii alla idmo dhacdo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa intaanan waxa ay ku hadleen dadka mas'uuliyiinta aanan wax ka dhihin inaan bal horta marka hore fiirino maxaa keenay weerarka in Kenya ay ciidda Soomaaliyeed soo gasho 20 sano kadib intii horena ay maartay ka meeri jirtay waxay la tahay ummadda Soomaaliyeed waxay la socotaa in ciidamo badan oo Kenyaati ah iyo waliba kuwa Soomaali ah labadii sano ama 3 sano ugu dambeysay lagu tababarayay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya dhinaca Kenya waliba lagu tababarayay ciidamadan waxaa tababarayay ciidamo Mareykan ah oo meesha base ka samaystay waxaa loo diyaarinayay maray ahaataba in Soomaaliya ay galaan maanta markaa waxay heleen fursad ay abuurtay laba nin oo la yiri waxaa laga afduubay xerooyinka qaxootiga ee dhinaca Kenya ah laba gabdhood Kenya inay ciidamo iyo dabaabaad iyo diyaarado iyo kharash inta leeg laba qof oo ajnabi ay maartay soo baadi goobto waa arrin aan macquul ahayn marka la fiiriyo dhaqaalaha Kenya iyo xaaladda maanta uu dalkooda marayo mashruucani marka waxa weeye gabdhaha la afduubay waxay abuurtay fursad qorshihii socday lagu fuliyo oo ah Kenya inay soo gasho Soomaaliya ciidamadeedu ay soo galaan oo ay maartay ilaa Kismaayo ay socdaan ujeedaduna ma aha ujeedaduna ma aha kaliya inay maartay ay soo galaan kaliya laakiin waxa weeye waa inay ilaa Kismaayo socdaan sababta maxaa Kismaayo loo soconaya waxaa jira qorshe ah in Kismaayo ama Jubbooyinka laga sameeyo maamul goboleed sida maamul goboleedyada qaarkood hoos taga Kenya oo noqdo buffer zone laga ay maartay shabaab ka caagan oo kale marka aan u soo noqdo hadaladii mas'uuliyiinta waxaa muuqata inuu jiro khilaaf u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya
weerarkan wuxuu dhacay 2 maalmood ka hor maanta ayay yimaadeen mas-uuliyiin Kenyaan ah war-saxaafadeedkiina waxaad moodaa inaan isku si loo oran Kenyaatigu si cad ayay u sheegeen inay shabaab ciidda Soomaaliyeed soo galeen oo ay 100 kilomitir gudaha ugu jiraan oo ay shabaab baacsanayaan dowladda Soomaaliyeed wali waxay leedahay ciidamo Kenyaati ma soo galin waxa halka ka muuqata khilaaf ah inaanay dowladda ku qanacsanayn soo galitaanka Kenya iyo qorshaha ay damacsantahay Kenya oo ah in inta Kismaayo la qabto waayo haddii fiiri shabaab inta Kismaayo iyo dhulkan jubbooyinka laga xaaqo loo dhiibo maamul ka madax bannaan dowladda macno uma samaynayo marka dowladdu waxay dareensan tahay mashruucan socdo inaanay iyada waxba ka macaashayn sidaa daraadeed waxaad moodaa markaa inayna ku qalacsan oo leeyihiin ciidamo Kenyaati ma soo galin wali inkiraadi ku jira laakiin professor Gore horta wasiirka gaashaandhigu saq cad buu u yiri markii hore haddii ay dhahan waanu baacsan idaacadaha caalamkan ka dhageystay iyagoo leh 100 kilomitir baan gudaha u galnay waana galaynaa waana soconaynaa hadda laakiin wasiirka gaashaandhigu wuxuu leeyahay ciidamadeenu ma soo galin wasiir waa nasiib darro mas'uuliyiinta Soomaaliya wali waxay taagan yihiin wasiirka Soomaalida maahan kan gaashaandhiga Kenya hadda wuxuu khudbadiisa ku jirtay inaad maqlaysay kalama qaadna wuxuu leeyahay hadda tan af Soomaali ku hadlay ninka wasiirka gaashaandhiga ee dalka Kenya waa nin af Soomaali ku hadlay wuxuu leeyahay ciidamada Kenya ma soo galin Soomaaliya laakiin ciidamo aan tababarnay ayaan soo galay idaacadahoo dhan ayaa shalay iyo maanta ay saarnaayeen mas'uuliyiinta Kenya wasiirka difaaca laftikiisa iyo kuwa kaleba oo lahaa ciidamadeena gudaha u galeen marka arrin qarsoon ma waa arrin la og yahay marka waxa muuqata meeshan xogaa inuu jiro isfahmi waa oo aan dowladda Soomaaliya lala socodsiin operationkan goorta u dhacayo operationkana waxaa iska leh sida muuqata operationadii waxa weeye mashruuci argixisada dirarka Mareykan baa iska leh waxaana xooggiisa iyo bayskiisa aan ku qiyaasaya inuu yahay in jubbooyinka loo qabto group kamida gruubyada Soomaalida oo markaa loo dhiibo meeshaana lagu ilaaliyo sida maamul goboleedyada qaarkood waa tahay laakiin dowladda kumeel gaarka maxay u dhihi laadahay hadday ka xun tahay xitaa annagu kama warqabno in ciidamo Kenya soo galeen iskaba dhaaf xitaa ma oranayaan ma xaqiijinayaan in aanay ka warqabin oo ay xitaa baarayaan ma sheegayaan maba soo gelinay leeyihiin maxaa ugu canbaad isleedahay number 1 waxa keenaya waxa weeye kow lama socodsiin operationka mar haddaan lala socodsiin haddana aan raali ka ahayn marka laba arrimood baa u furan inay afka furtaan yiraahdaan waa waray Kenya soo weerartay hadday dhahaana waxa weeye rag badan baa mataqaana safarada ay Nairobi ku tagaan waayaya marka ma hadli karaan labo waxa weeye dhaqaale badan oo ay helaan oo ay siiyaan dawladaha deeq bixiyaasha oo mashruucan iska leh ayay waayaan labadaba marka ma hadli karaan waxa weeye waa inay hoos u hadlaan oo yiraahdaan hoos u gunoonaan oo dhahan war anaga waxba kama qabnay laakiin waxna la hoos keenay anaga waa tahay waa ku soo laabanaya way waxaad la socota Xasan aan dib kuugu celiyay ciidamadan Soomaaliyeed ee Kenyaatiga tababareen ee adiga kunka ama gaaraysa meelahaas waagi la tababaray waa tii lagu dagaalamo la yiri xamar hal la keeno oo dawladda gacanaha siiyaan iyo keeni maayaan jubbooyinka xoreynayaan wali arintii ba taagan waa tahay waan ku soo laabanaya waxaan jeclahay markan iyadoo wareysyada aan haddaan tidin ku celiyo barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb qaadan doona wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarkaana ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo wareysigiisa aad goordhow maqli doontaan waa Xuseen Carab waxaa kaloo nagala qayb geli doona Sheekh Xasan Daahir Aweys waxaa kaloo nagala qayb geli doona Sheekh Axmed Madoobe oo isagu ku sugan magaalada markii aan la hadlayay waxa uu yiri waxaan ku suganahay inta u dhaxaysa Afmadow iyo Dhobley ayaan ku suganahay ayuu yiri waa Sheekh Axmed Madoobe gudoomiyaha Ras Kamponi waxaa kaloo nagala qayb geli doona aqoon-yahanada kale ah Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Maxamed Maxamuud Culusow oo kala jooga wadanka UK iyo wadanka Mareykanka aan ku laabtay sida la socotaan al-shabaab waxa shir jiraayad qabtay oo aan rabaa inaan dib idin xasuusiyo Sheekh Cali Dheere oo markaasi ka hadlayay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee wadanka Soomaaliya alxamdulillahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن شاء الله تعالى
shirkeenna jaraa'id wuxuu ku saabsanaan doonaa dhilada colaadeed iyo gulubka maalmihii ugu dambeeyey ay ka waday dowladda kiristaanka ee Kenya qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo gedo gulubkaas colaadeed oo runtii soo socday in muddo ah ujeeddada ay ka leedahayna uu ahaa in la baabi'iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hirgelay wilaayaadka isaga ah gulubkaasi waxa uu xilligan hadda la joogo galay marxalad cusub waxay ka warqabaan dhammaan ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed dagaaladii muddooyinka ugu dambeeyey ka socday deegaanada xuduud beenaadyada ka dhexeeya wilaayaadka islaamiga ee jubbooyinka iyo gedo iyo dhulka ay dowladda Kenya xoogga nooga haysato xuduud beenaadkooda dagaaladaas oo runtii marxalado kala duwan oo badan soo maray waxay ka soo bilowdeen in dowladda kiristaanka Kenya ay soo tababarto ciidamo fara badan oo dhulkeeda ay ku soo tababartay kadibna ay keentay xuduud beenaadka halkaana ay isku dayday inay soo geliso wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo gedo markii ay ka hortageen mujaahidiintu runtiina dharbaaxyo laba ilaabaana ay ku dhigeen maleeshiyaadkaas murtadiinta ah Kenya iyada ayaa markaa iscelin weyday oo gudaha u soo gashay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka khaasatan iyada oo naf iyo maal wixii haysay halkaa isugu keentay labada wilaayo marka ee jubbooyinka iyo gedo ciidamadooda mujaahidiinta ah iyo shacabkooduba waxay si adag runtii uga jawaabeen ololahaasi cadowga ku soo qaaday iyagoona dagaallo adag kala hortegay cadowga isaga ah ee soo bahaystay maxamuud raage sheekh cali dheere ayuu ahaa oo runtii aada ilaa shalay daawanayseen shirkiisi jaraa'id oo ku qabtay deegaano ka mid a magaalada muqdisho ama gobolka shabeellada hoose meelo ka mid a waxaa markan inoo soo socda wasiirka gaashaandhigga iyo sheekh xasan daahir aweys iyo xubno kale oo aan idin carabaabnay oo aan idin tusnay hase ahaatee waxaan la xiriiray oon taleefonka kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya oo markaasi aan wax ka weydiinayo waxa dowladda kumeel gaarka ay kala socoto soo gelitaanka ciidamada Kenya gudaha waddanka Soomaaliya iyo haddii ay ciidamada Kenya sharci dowladdu u siisay inay gudaha u soo galaan waxaana su-aasha hore noqonaysaa bal inuu warbixin inaga siiyo waxyaabaha ka dhacaya deegaanada jubbooyinka والله دولة الدجال نقول شنو نمك الشباب وين لفعت عند لفعتها haye marka wararkan sheegaya in ciidamada Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya oo hadda ay ku sugan yihiin maxaad kala socotaan horta runtii annaku policy waxa weeye annaka iyo wadamada dariska aan nahay isku sidan uga soo horjeednaa nimanka argagixisada ah marka haddii la iskaalmaysanayo waa soo dhaweynayna laakiin nimanka la dagaalamaya nimanka waa Soomaali marka waxaad leedahay gudaha Soomaaliya ciidamo Kenyaana ma aanay soo galin maydan waxa ku sheegaya annaka policy-ga haddii la caawinayaan xagga taasooyinka ama maartida militariga loo caawiyo waa wax la isku leeyahay kulli daris baan nahay mushkiladaha nabad haystaana waa mushkilad regionka oo dhan haysata marka in la iscaawiyo oo la share intelligence waa wax loo baahan yahay laakiin arrimahan kale ka sokow dowladda Kenya fasax miyay ka haysataa dowladda kumeel gaarka ah oo ay gudaha ugu soo gasho dalka Soomaaliya waxa weeye adduunyada markaad ogtihiin mararka qaarkood dalalka markay gudahooda wax ka dhacaan kuwii wax qabtay ay soo gudbaan xadka waa lasoo dabagalaa waana laga noqdaa laakiin annaku waxaan ku leeyahay annaku policy waxa weeye inaanu ka kaashano sidii cadowga laga hortegi lahaa cadowgana waa cadow u dhex magaranaysa regionka oo dhan saameeya waa garta marka hadda ciidamada gobolada jubbooyinka ogaanta xaggee bay ku sugan yihiin waxa
dagaal haddii lagu jiro ma doonayo inaan ka hadlo waxyaabaha noocaasa iyo masiga yihiin waxay qabanayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa un annaka policyga iyaga oo ah in meel kasta ay joogaan ba lagula dagaalamo waa tahay marka qorshaha amniga ee hadda degsan la doonayo in lagula dagaalamo al-shabaab waa noocee oo istiraatiijiyadda aad dooneysaan inaad kula dagaalantaan istiraatiijiyadu waa tii marka hore baanu wadnay in maaragtay muqdisho oo keliya aanu ahayn dagaalkii uu regionada oo dhan yahay oo lagala kaashanayo wadamada annaka doonaya in naftakooda na caawiyaan wadamada jaarka ah marka waxa weeyaan waa policy ah in la kaashado awood kasta wasiirka amniga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya dhammaantood waxa ay sheegeen in ay ciidamadoodu Soomaaliya doonayaan inay galeen oo ay baabacsanayaan oo cir iyo dhulba ay u galayaan iyo badba isla markaana ay la dagaalamayaan iyagii ayaa qirtay marka adinkii dawladana waad qarinaysaan soo taal lama oran karo ma waxa la qarinaya meesha ma jiraan waxa weeye ninkii isdifaacaya inuu isdifaaco xaq buu leeyahay dadka dalkooda soo galay ee balaayada ka jirsanayeen iska difaacaan xaq bay leeyihiin marka waxa weeyaan nin oranaya dhulkaygii baan cadow ka saaraya maaragtay waa in lagu caawiyaa al-shabaab waxa ay sheegtay in aanay wax afduuba ka geysanin gudaha waddanka Kenya waana beenisay si cadeena u sheegeen marka haddii aanay al-shabaab afduubanin oo laga yaabo in qolooyin kale afduubteen marka soo lama dhigi karo waa faragelin ay iyo qorshe degsanaa oo ciidamada Kenya ay doonayeen inay gudaha Soomaaliya usoo galaan wallahi runtaas waa mid iyagii al-shabaab u taalo laakiin annagu wax baartay xumaan oo iyaga naga dhaxaysa Kenya ama faragelin inay ku samayso xagga sovereignty-ga Soomaaliya ma jirto laakiin waa wax baartay u dhaxeeya Kenya dowladda Kenya iyo al-shabaab waxa soo baxaya maalmahan warar sheegaya in xataa dhinaca badda ay Kenyaanku soo galeen oo in muddo ahba la diidanaa baarlamaankuna diiday baddi iyo berigana iyaga ayaa sheegay inay galayaan marka haddee adinkiibaa xukuumaddii ah adinkiibaa dawladdii ah wax cadna ma sheegaysaan marka waxaa lagaa rabaa wax cad wasiir inaad u sheegto bulshada ku dhagaysanaysa oo ah ma dawladda ayaa siisay awoodda ay ku soo gelayso bad iyo beri dawladda Kenya anigu waxaan ku leeyahay hadda waa inaad fahamtaa marka dagaal lagu jiro waxyaabo badan oo aan laga hadlin mayso laakiin waxaan kuu sheegayaa dalka Soomaaliya sovereignty-geeda in wax lagu xadgudbo anagu ma ogelin laakiin dalalka jaarka noo ah wada cadow baanu leenahay oo cadowgaas oo ogtihiin ciday tahay in sidii la kaashan lahayn laga hortago waa wax waajib nagu ah haddaanu dawlad nahay marka dee anagu mowqifkayga waa kaa haddii la iskaashanayo inaanu ka shaqaynayno anagu sidii looga celin lahaa cadowga maya haddii la iskaashanayo Soomaaliya in xuduudooda ay xirtaan ma inay gudaha usoo galaan ba xuduudooda way xiranayaan waxaan ku yiri laakiin marka su-aasha hore igu soo celisay waxaanu ku leeyahay xaqa bay u leeyihiin inay daafacaan ciddii gudaha ugu soo gashta ayna u baxsadaan meesha doonayaan laakiin waxaan ku leeyahay inay dalkooda daafacaan oo marka lasoo galo haddii laga geysto qalalaas inay wax ka qabtaan xaq bay u leeyihiin annaguna xaq waan leenahay dowladaha jaarka iyagana xaq bay u leeyihiin waxa ay joogaan salaamu calaykum waxa ay joogaan Dhobley iyo Afmadow wasiir maxaa tiri Dhobley iyo Afmadow ayaa lagu arkay ciidamada Kenya Dhobley iyo Afmadow ciidamada Soomaaliyeed baa jooga marka anigu baartay haddii lagu arkay waxa waa gooni laakiin ciidamada Soomaaliya ayaa halka ka dagaalamaya marka dadka koor lahaan waxa advice waxa la deeyay Kenya kan la hadasho wareysatay iyaka maya laakiin adiga xukuumadda Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa inay ogaadaan in dalkooda laga shaqeynayo maya laakiin adiga xukuumaddii ah oo wasiirkii gaashaandhigga oo salaamu calaykum ya maya wasiir hal daqiiqo sii adiga oo wasiirkii aad u maasan tahay waxaan jeclaan lahaa ma garanaysaa inaad su'aalo badan oo kala duwan weydiiso laakiin su'aalo badan soo celcelinaysaa maya waan ku weydiinayaa laakiin hal su'aal oo dadkana daawanaya ay jeclaan lahaayeen ayaan jeclaa inaan ku weydiiyo oo dadka dhibaya adigaa matalaya ummadii Soomaaliyeed xukuumaddii adigaa matalaya adigaa meesha u jooga waxaa la doonayaa marka dadku waxay ka danqanayaan oo leeyihiin haddii badii ay sidaan tahay barigiina ay sidaan tahay dawladdiina aanay ogeyn haddii dawladdu ogtahay waa dawladdiina bay leeyihiin laakiin dawladdii oon ogeyn in ciidamadii Kenya lagu arkay gudaha Soomaaliya taabay ka hadlayaan oo leeyihiin waxaan rabnaa inaan ogaano dawladdana loo weydiiyo hello waa tahay kaas wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga
waa tahay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayuu ahaa oo aan ka wareysanaynay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee gudaha wadanka Soomaaliya runtii markasta oo laga hadlayo arinta Kenya waa in la socotaan inay tahay dowlad runtii ku soo dhaweysay dalkeeda dad badan oo Soomaaliyeed dad badan ayaa ku ganacsada runtii maantana qofku markuu caafimaadka rabo waxa uu ka degaa magaalada Nairobi oo uu maaragtay ku tagaa si xor ah waad la socotaan oo markii dadku ay qaxaan qaxootiga albaabada ay u furtay dowladda Kenya xaqiiqadii marka aan fiirino 20 sano ee la soo dhaafay iyadoo dagaaladu ay ka soconayaan qaybo kamid ah dalka Soomaaliya ayayna haddana inta badan ayna xoog ka saarin in ay dhibaatooyin badan ka geysato gudaha wadanka Soomaaliya taa laftirkeeda waa in lala socdaa tanina ay tahay tii ugu horeysay ay faragelin kaga sameynayso gudaha wadanka Soomaaliya waa tahay intaan u galay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo runtii asagu qodobo dhowr aan ka wareysanayno dowladda waa dhageysanaysa wasiirka gaashaandhigga hay'adda marka ma wasiirka hadalkiisa waa cadaa oo waxa weeye waxa muuqatay dowladda inaan lagala tashan howlgallada ciidamada Kenya inaan lagala tashana absolutely muuqatay oo marka waa arrin aan marna dowladdu dhiig waqti fiir haddii uu jiri lahaa muwaafaqad ama yani ogolaansho dowladda Soomaaliya laga haysto in ay hawshan wada fuliyaan oo howlgallada ay ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada Kenya wada fulinayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxay wada qaban lahayn shir jaraa'id ama dowlad ayagoo ama wada jooga ama midkoodba uu jooga caasimadihiisa oo ay dhiilaan saaki waxaan bilownay howlgal ka dhana shabaab jubbooyinka okay marka nasiibdar waxaad moodaa sida warbaahinta lagu xusay intaan warbaahinta lagu xusay inta marka operationka bilowdo ay sheegi lahayn maadaama dowladda Soomaaliyeed looga naxsaday oo malaha shacabka ay ka maqleen ama idaacadaha in dalkiiba la soo galay waxa weeye marka waxay ka hadlaan ilaa ay maartay helaan xogta oo ay la hadlaan dowladda Kenya iyo international community iyo qolooyinka mashruucan iskale waxa weeye waa inay inkiraad ku jiraan oo yiraahdaan laakiin mid baa jirto laakiin baarlamaanka Kenya qodiiso dowlad markay rabtay inay dowlad kale ay xuduudkeeda dhaafto soo baarlamaanka go'aan ka soo baxso ma jiro oo ogolanaya waa suurtagal in madaxweynaha Kenya uu haysto inaanu haysan laakiin taas anaga mushkiladeena ma wasiirku wuxuu ku celceliyay ama dhowr dad kale ay ku celceliyeen in Kenya ay xaq u leedahay inay isdifacdo xaq u leedahay inay isdifacdo laakiin waa xuduudeeda haday rabto inay difaacato ma taqaana meelaha dalxiiska iyo tamashlaynta iyo meelaha qaxootiga joogan booliiska kordhiso xuduudka xirato weligeed basaas yeeli jirtay haddii laakiin ay soo gasho ciidda Soomaaliyeed waa xadgudub haddaan dowladda Soomaaliyeed aanay ogolaansho ka haysan in gruubka ay la dagaalamayaan ay soo cirsaan laakiin mashruucani Kenyana ma laha Soomaaliyana ma laha labaduna ma celin karaan waxa markaa muuqata oo ii muuqda hadda Kenya ma joogsanayso ilaa kiis haday awoodaan oo isu suurtagasho ilaa kismaayo way socon iyo jamaami meelaha ku dhow waxaa kaloo furmi doona fronti kaloo ah gobolada dhexe waxaan arki doonaa haddii tani guulaysato ciidamada Ethiopia inta soo gala Dhuusamareeb iyo Beledweyne iyo dhulkaas oo dhan qabsada iyaguna oo ma taqaanaa ilaa Ceelbuur dhulkaas taga inaan aragnaa dhici karta professor aan ka dhaxkale dowladahan dariska la ah haddii aanay haysanin dhibaatooyinka gudahooda laga sameynayo waad arkaysaa xariyaha qaxootiga intaasoo kun oo qofood ay dhooban yihiin ayaa dad ajnabi oo dalxiisayaal laga afduubanaya gudihii Soomaaliya ayaa lala tagayaa cid ay uga dacwooto ama ka damaanad qaada oo Soomaaliya ka tirsan lama arko maxaa kale u furan inay galaan mooyaan firi Kenya muwaadiniinteeda hadii la afduubo ciidamo inta leeg ma soo dirteen waa muwaadiniinteeda hadii la afduubo laban qof oo ajnabi ah oo European ama European ahna inta soo ciidan kharash uma galayso hadday Kenya rabto inay ammaanka dadka sugto booliiska ayay xoojinaysaa ta kale qaxootiga faraha badan Kenya cunto ma siiso waxa kaliya offer gareysay waxa weeye in dhulku ay degaan oo waliba ay beesha caalamka ku khasabtay oo ma taqaana cuntadooda iyo dawadoodii wax kasta waxa bixiya beesha caalamka bixisa Kenya marka iyadaaba ka faa'iidaba qaxootiga markaad fiiriso marka sidaa daraadeed ma ahan mashruucan ama operationkan ama howlgalkan ma aha howlgal
lagu soo daynayo 2 qof oo aan la ogeyn meel la geeyey Soomaaliya waa dhul ballaaran dhulka jubbooyinkana waa dhul kaymo badan waa dhul tuulooyin badan meel la geeyay cid og ma jirto haddaan marna la ogeyn waxay noqonaysaa on martaqaanaa cirbad maartay bad lagu tuuro oo kale adoo raadinaya marka waxaan inaan ku daree marka waxa weeye Kenya hawsha tan waa loo soo diray dawladda ka waaweyn baa mashruucan iska leh dawladda Soomaaliyeed waxba kama dhihi karto jiritaanka shabaabna wuxuu mar kasta sabab u yahay in quwada shisheeye iyo dawlad shisheeye ay Soomaaliya soo farageliyaan ogow jiritaanka shabaab dad badan baa jecel inay shabaab sii joogto wadamada deriska iyo wadamo kale oo fara badan baa jira waayo Soomaaliya dhulkeedii iyo badeedii baa loo soo jeesto faragelin lagu hayo Soomaaliya waxay noqotay sacirman oo ninkii lahaa uu gaajo u dhimanayo waa fahmay waa garad Soomaa marka waxa way Kenya mashruuc bay heshay maada adduunka dhaqaale xumaa ka jirto mashruucana heshay wax badan bay lahayd ma galayo laakiin hadda waxa way waxaad moodaa inay dan ku khasabtay waa gartay waxa inoo soo socda Sheekh Xasan Daahir Aweys inagoo Professor Kure oo maaragtay mar walba waraysigii maadaama waraysiyadu ay dhowr yihiin oo ka faalloon doono hadba sida ay noqon doonto waxaan markaan u baaqayaa Sheekh Xasan Daahir Aweys sida la socotaan Sheekh Xasan Daahir Aweys waa sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana uu ka hadlayaa faragelinta uu leeyahay ciidamada Kenya waa nagu soo sameeyeen oo inta badanna dadka badan aaminsan yihiin in al-shabaab fikradaha ay aaminsan tahay dhaqdhaqaaqyada ay maaragtay ka sameynayso gudaha waddanka Soomaaliya in ay sabab u noqon karaan wax kasta oo maaragtay dawladaha deriska la talaabo kasta ay ku dhaqaaqayaan Sheekh Xasan waxaan weydiiyay bal inuu ka hadlo sida uu arko dhaqdhaqaaqyadan ka soconaya dhinaca gobolada jubbooyinka bismillah alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi horta waa dulmi weyn ay samaysay sida runta ah oo aad iyo aad u qaab daran waana u malaynayna kolleyba nin ayaantan ay soolanayso waa iska dareemaynay oo shiina hadeen waxay ku keentay waa la arkahayaa anigu se maadaama si badanaada istaraatiiji aan u fikiro waxaan isleeyahay annaga inay faa'iido noo tahaan u malaynayaa oo sababtu waxa weeyaan annaga derbi waxaan hortaagnaan jiray dawladdaasi waa dawlad nabadeed yaan la taaban waxaa kaloo na hortaagnaan jiray dadkii Soomaaliyeed oo ku qaxay dadka yagiyaa joogay yaan la taaban waxaa kaloo na hortaagnaan jiray cadow badan aan leenahay yaan la taaban intaas oo dhan marka hadday derbigii ayaga jebiyeen oo markaas derbigii loo dhexeeyey iyagu jebiyeen ayagu gardaradii bilaabeen annaga istaraatiijiyan waxaan aad iyo aad aan isleeyahay annaga inay dan noo tahan u malaynayo waana rajaynayaa inay saas tahay waa tahay Sheekh Xasan maanta ma dhahaayo laakiin istaraatiijiyan annaga inoo tahay maslaxo sababtu waxa weeyaan waxyaalihii markaan ilaalinayno oo dhan ayagaa jebiyey marka waxaan u mal rajaynayaa inay ayaga ay faraha dhaniin doonaan rajaynayaa insha allahu tacaala laakiin waa maanta iyo waa daliilna ma dhahayo laakiin dawladda Kenya waxa ay sheegtay in ammaankeeda u cabsatay isla markaana ay kadib markii afduubyo dhowr ah lagu sameeyay oo dhinaca Soomaaliya loola soo gudbay waxayna ku eedeeyeen dhinaca al-shabaab taa armay tahay sababta keenaysa inay gudaha u soo galaan Soomaaliya walaal horta dawladdu wax aysan hubin ama shalay iyo maanta dhacay iyo daraa kula duusho waxa weeyaan duulaankan waxaa la qalqaalinayay intii 2 sano waa la soconaa 2 sano la qalqaalinayay waxaa jirta arrin wax la yiraahdo dhaalkii maxay laga dhigto jaranjaro laga dhigtaa jira marka jaranjaradaas daraa dhacday weliba dadkii lagu eedeeyay ay jireen cid hadda ku hubto oo la yaqaanana aysan jirin inay maaragtay dawladdu ku duusho ma badna laakiin markay istiraatiijiyan waxa weeyaan ayagu markooda waxa weeyaan dagaalkaas caalamiyan
nalaguba jiray oo ayaga ay waxa aan islahaa in badan ay maaragtay xogaa is ilaalin jireen laakiin hadda lagaga adkaaday in la geliyo dagaalkii oo lagaga xoog batay oo wixii la rabo maaragtay ama hala gado ama baalkii maxay ahayd ama hala culays hala saare ama hala bakiye intaas oo dhan lagu sameeyey duulaankan uu ka dambeeya kama dambeeyo gabdhaha maalin dhaweed la sheegay wax watayna aan la garanaynin kama dambayso waa garanaynaa laakiin dagaalku wuxuu ahaa dagaal soo socday oo maaragtay wax badan la qalqaalinayay waa garanaynaa laakiin anagu sida walba anagoo filanaynay warnabara filanaysa waxaa la yidhaahdaa nuxuus mooye naxdin male marka sababta marka waxa weeyaan ayaga marka dagaal dambe aan rajaynayaa waxyaalo badan oo anagu aan maaragtay baashi muxuu ahaa aan ka gaarsan jirnay inay noo furi doontaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sheekh xasan wax walba oo lagu soo duulaan tago oo maaragtay soomaaliya lagu soo gelayo waxaa qiil looga dhigtaa al-shabaab al-shabaabna hadda heshiis ay la gelayso qaybaha kale ee soomaalida ma muuqato waxaanoo dhan waxa fududeynaya waa al-shabaab soo lama dhihi karo walal horta waxaa la fiiriyaa dadka maxay ayagu xaqa ay uleeyihiin waxa ay samaynayaan ayaa la fiiriyaa laba meelooda laga fiirinayaa sharciyan diini ahaana waa laga fiirinaya dad ahaana waa laga fiirinaya dal ahaanna waa laga fiirinaya shabaab haddii dalkoodii wax cidaan ahayn ay ka xadgudbeen iyagoo lagu xadgudbin iyagu xadgudbeen waa shay haddii la sheegi karo wey laakiin haddaysa taas ahayn waxa weeyaan waxaad moodaa orgiga maxay ahayd oohinti ka weyweeye marka waxa weeyaan shabaab cid ay hadda ku xadgudbeen anagu ma garanayo cid ayada lagu soo xadgudubtay etoobiya iyadaa lagu soo xadgudubtay wadanka iyaga noogu timi baalki muxuu ahaa uganda iyo burundi ayagaa lagu soo xadgudbay iyaga wadanka iyaga noogu yimi kenyan hadday kusoo garantay marka yani kiiskaas marka waa kiis iska cadweeye oo wax hadda la yidhaahdo shabaab baa colaad keenay oo colaada sabab u ahaa ma jirto laakiin maadaama hadda ay mudnaan diineed yihiin caalamka hadda wax ka socdaana aan diini ku jirin marka diintaas lala diriraayo darteed weya mooyaane wax hadda ayaga la dhihi karo kenya ku duuleed ma jirto etoobiya ku duuleed ma jirto baalki waxay ku duuleen maaragtay uganday ku duuleen ma jirto buruudiay ku duuleen ma jirto caalamkanay ku duuleen ma jirto wadankooda ay raashanayaan laakiin dalkoodii oo diintoodii iyo dalkoodii ay isu soo ceshanayaan ayaga iyo wixii lamada iyo raggii ka horreeyaba sheekh xasan hadde waxaa jira arrintaas weeyaan marka waxa la yidhaahdo baalki muxuu ayaga colaad sameeyey ma jirto laakiin colaadu waxay ka socotaa diin nacayb waaye diintaas islaamka nacaybkeed ayay ka socotaa oo weliba ay kaabo ka tahay america sheekh xasan al-shabaab meelo ka baxsan soomaaliya waa ku duushay oo uganda ayaa kamid ah oo ilaa iyo inta todobaatameeye ka badan ayay magaalada kampala ku dileen marka meelo kale waa sidaas oo kale marka maxaad u leedahay meel ka baxsan dalkooda kuma aanay duulin wama markii iyagu lagu soo duuleen kadib amase waa ka hor hadda intii ciidamada ugandesku ay joogeen wadanka soomaaliya ayay al-shabaab waxa ay tageen dhinaca magaalada waxa ay sheegteen qarax ka dhacay wadanka uganda marka gardarada iyo marka iyagu lagu soo duuleen oo dadka iyagii laayeen markaas kadib wixii ku dhacay ma abaal baa base waxa weeyaan waa gardaro haye waa gardaradiyaa laga jawaabay maahane ma aha maarata iyagu ma bilaabin macnaha walbaadi adlam ayaa la yidhahdaa laba qofkii gardarada bilaaba ayaa dulmiga iskale marka waa tahay tallaabada aad qaadi kartaan tallaabada idin furan oo aad qaadi karaysaan maxay tahay haddii ciidamada uganda ay soo galeen gudaha soomaaliya al-shabaab tallaabada ay qaadi karayso ma inay qarxiso magaalooyinka kenya ka tirsan miya
walaal horta ayaguba hadee kubaarta dadka iyagii duqaynayaan, dadka iyagii dilayaan maalin walba, dadka iyagii qarxinayaan. marka dadkooda in la qarxiyo waa abaalgud waaye. abaalgudkuna ma aha qofka abaalkii muxuu ahaa والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلهي المؤمنين تمروا كهذا الدين قردرة سابقة وآخران ما كان يجي قردرة كآخر ظالم ما يجي مكر قردرة بالله ظالم واتاي شخصا ان معناها ما دام اتري ان الشباب ان ومعناها ارن كان دولان كاه ومعناها عواقب كذا واركي دونان دلك كينيا قابعا كا ايا دونيسان inaad uga jawaabtaan walaal horta waxa weeyaan dagaalku waa iska noocyo badan yahay bimacnaa waxaan u jeedaa yani dad awal waxaan ahayn berisna ah intii sabarana isdhowra walow iyagu maaragtay waagii maxkamadahana ay gacan ku lahaayeen dagaalka iyagii ay gacan ku lahaayeen laakiin haddana xoogaa waxaa naga dhexeeyey isdhowrid marka macnaha xaajiskii ahaa isdhowridda ayaa meesha ka baxay oo waxaan noqonay dad dagaal aan noqonay yani dad laba yani dagaal aan noqonay oo waxa weeye xarbi ah ayay noqonay oo hadda waxa weeyaan xarbiyaa naga dhexeeya meeshii awal ay naga dhexaysay ixtiraam hadda xarbiyaa naga dhexeeya xarbigaas marka ayagaa bilaabay marka natiijadana insha allahu tacaala walcaaqibatu lilmuttaqiin waaye insha allah annagaa yeelan doona biidni illahi tacaala marka macnuhu waa gudahaan ku weerari doonaa haduu meel saan rabno aan waxa weeye mar haddii dagaal jiro maogtahay mar haddii dagaalka naga dhexeeyo dagaalkaasu qaabkood baa loo dhigaayo wax problem maaha marka ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka rajaynaynaa dadkan muslimiinta ahi waa dad hadday dagaalamaan ilaahay ou u gargaaro insha allahu tacaala aan rajaynayno in ilaahay noo gargaaro marka waa gardaro iyo waxay isku darsadeen ayagoo naga gardaran iyo ayagoo diinta iyadii nagula diriraayo labadaasay isku darsadeen marka iyo ayagoo weliba ixtiraamkii naga dhexeeyey dawlad marka waxa weeye xarigaa furan waaye marka waxaa deen kala helnaan leenaha wey macnaha waa tahay sheekh xasan waxaan jeclahay hal su-aal oo dadku inta badan aada noo soo weydiiyeen adigana ay jeclaayeen inay ku weydiiyaan oo ah qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka badan ku baaba-een sheekh xasan oo al-shabaabna ay ku dhawaaqday in ay ku tilmaameen inay dad gaalaha la dagaalameen kaas adigu seed u aragtay walaal horta waxyaalaha oo dadkeenan hadda iclaanka cajaa'ibta aada leedihiina waxay kamid tahay qaabka oo dadka dhaalkii maxay ahayd qadiyada wata oo maaragtay annaga aan la dirirayno qaabka warkay u dhigaan inaad u dhigtaan aad jeceshiin qaabka su-aasha iyaga u rabaan inaad u weydiisaan aad jeceshiin marka fiiri annaga hadda yani dalka iyagi waa lagu soo duulay waana lala diriraya ninkii annaga xaggayaga jirana madaafiicaa ku dhacaysa ninkii xaggeeda jirana waxuunbaa ku dhacay inkastoo dadka iyagii ay u badan yihiin laakiin haddana waxa weeyaan meesha ay iyagii aan kula dirirayno dadka ayaa waa ku dhimanaya laakiin hadafku mashruucuu ahaa laakiin dad aan dhibka ayagu wax ku lahayn inay ku dhinteen shaki kuma jiro waxaana xagga islaamka jirta haddii oo laba siyood baan aan rabay arrinta uga jawaabo si aan dadka ugu waadixiyo waxna waxa weeyaan waa caskariyo waxna waa diiniyo waay labadaasaan ku shaqaynaa annaga marka hadafkooda hadaf caskariya ma ahaa la tooganayay wuxuu ahaa nimankii oo bahalkii muxuu ahaa cadowga soo hogaamiyey cadowgana la socday dawladoodii meesha ay joogto ay askarti difaacaysay ayay ahayd marka hadaf mashruuca waay caskariyana mashruuc waay diiniyana mashruuc waay laakiin hadda dadka carada jooga oo meelihii jooga waa dad aan dembigaa wax ku lahayn waa ku dhinteen marka dadkaas marka xulinkooda muxuu noqonaya diiniyan waxa weeye ninkan isaga dembiga ku jiro dhibkaasina gaaray insha allah waa shahiid yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaya niyadiisa in ilaahay maaragtay baalkii maxay ahayd maaragtay una hagaajiyo niyo fiican oo kusoo bixiyo
shahaadana uga dhigo muslimiintana waa saas gaalada dad bay maaragtay ama qabsadaan ama ku dhex jira waa ku dhimanayaan shahaado waaye insha allahu tacaala marka dadkii cadowga ahaayoon la diridayna hadafku sax weeye diiniya iyo caskariyanba sax waaye waxayna la mid tahay fiiri waxay la mid tahay marka basiiri america markii oo jabaan la dirinaysay dadkii qumburada lagu laayay askartii ma ahayn dadka qumburada badwiyada lagu riday hiroshima iyo magaciisa ma ahayn laakiin waxay rabeen adiga cadowgaas iyo dadka la jeeda cadowgay tooganayeen marka dadkii dad shacabki oo adow gardaro lahayn adigoo masaakiina ayaa ku leeday ayaga marka waxa weeye hadafka waxay tooganayaan maaragtay nimanka la diridaayo laakiin dadka marka sidii hadda maaragtay nimankii oo baalkii maxay ahayd 11 September fiiri nimankan oo laleeyahay daday laaye waxa weeyaan dawladdii meeshii maaragtay Pentagonkii oo caskariga ahaa iyo baalkii maxay ahayd inta ka fashilantay iyo guriga cad oo maaragtay baalkii maxay ahayd masaladii dawladdii ah oo sharcigii ah iyo maaragtay baalkii si iqtisaadiga ahayd oo beerdaarihii makaanaha ahaa markay tooganayeen nimanka waxa weeye hadaf caskariga ay tooganayeen laakiin dad oo laga yaabo inay baalkii maxay haysa ayagu aysan ku jirin ayaa ku leeday waa sax waay laakiin hadafka mashruuc waaye laakiin dada wax ku gaarayaan oo maaragtay aan ayagu shaqo ku lahayn meesha waxyaalaha marka waxaas waa wax dhacawa dadka iyagii oo xaggana ku dhimanaya adinka marka midda ay madaasiicayay ku ridayaan kama yani ma qabsanaysaan ma ku hadlaysaan ma weydiinaysaan midka ayagoo maaragtay markii xaggooda anagu waxay aan geysano unbaad weydiinaysaan sida cadowga u fakeraayo ayaad u fakeraysaan marka taasna sax maa nimankan maalin walba madaasiic bay ridayaan oo dadkii ku qaxinayaan oo guryihii ku burburinayaan ma laga hadlaayo hal shay hore oo xagga iyaga ka dhacday oo dhowr qof dad baalkii intay rabaan intay tiradeeda hadda ma ay caddeen ee dad ku dhintay dad ay mashruuc ahayd in ay ku dhintaanna ay mashruuc ahayd ay ku dhinteen dad kalena ku dhinteen aasaas loo warinaya keli marka waxa weeyaan dadkii ku dhintana uga tacsiyeyneynaa oo maaragtay dembiga wax ku lahayn midda kalena meesha mashruuc ayahed in la joogto mashruuc ayahed waa dawladdiina yahed sideed maaragtay baalkii maxaa wasaaradada ku jirtay mashruuc waaye dagaala naga dhexeeyo waa marka in la qaxiyana mashruuc waa waxaa in dadku maaragtay qalb loo akriyo ma waa sax waaye in la maaragtay baalki in lala diriro waa sax weeye diiniyan iyo maaragtay baalki militariga meesha in la joogtaa waxa weeye diiniyan iyo militariga sax waaye laakiin dadka ku dhintay oo dawladda ahaa ama meesha iska yimid oo dhibaatadu ku gaartay uga tacsiyeynayna ilaahayna ha maaragtay baalki muxuu ahaa u naxariisto shahaadana allah uga dhig waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan daahir aweys oo wareysigiisu laba qodobba uu ahaa midna wuxuu ka hadlayay soo gelitaanka ciidamada Kenya midna qaraxii ka dhacay dhinaca wasaaradda harkaha isaamaha dadka badan ay ku dhinteen iyagoo gubanayana laga arkayay shaashadaha kala duwan ee caalamka oo markaasi uu isaguna ka hadlay professor maxamuud guure aad baan ugu mahad celinaynaa waqtiga qaaliga uuna siiyey al-shabaabna waad maqashaa marka al-shabaab iyadu qaabka ay wax u doonayso sheekh xasan iyo sheekh cali dheere haye see kugu muuqdaa horta runtii wax lagu qoslo waaye al-shabaab inay tiraahdo waxaan difaacaynaa dalka iyo dadkay dadkana ay laayaan oo weliba kuwooda waxbartay ay laayaan oo weliba kuwooda mustaqbalka ay laayaan isma qabato al-shabaab inay yidhahdaan dalkan difaacaynaa haddana ay mar walba noo soo hogaamiyaan cadowga oo iyaga dalka lagu qabsadana waxa weye arrin aanan ka yeelin weye 2006 Ethiopia inay dalka soo gasho waxaa sababay niman dhalinyaraa oo shabaab oo maxaakiimta ku jiray oo baydhabo weerar ku qaaday iyaga sabab u ahaa waana caddeed in Ethiopia dalka keenayaan maantana siday u dhaqmayaan kalsoonida dadkay lumiyeen waayo dadkii bay gumaadayaan dadkii bay macluul ku dileen dadkii baa la-aanaya xaafadahoodii iyo degmooyinka ay joogeen marka al-shabaab waxa weeye hadday doonayaan inay Soomaaliya wax ka noqdaan ama ay Soomaaliya hogaamiyaan ama sida ay sheegan diin islaam ay ku dhaqaan al-shabaab waa inay wax iska bedelaan waa inay la yimaadaan barnaamij ay Soomaali leedahay oo Soomaaliya ku wajahan oo wax dhisaya mush mid wax duminaya mid wax noolaynayo aan wax dilaynin mid wax hagaajinayo aan wax burburinaynin mid
caalamka noo soo jiidayo oo hooyo iyo aabba nooga dhigay iyo walaal oo aan caalamka nagu diraynin waa inay la yimaadaan siyaasad furfuran siyaasad soomaaliyeed siyaasad soomaalidu ay kala tashtaan ma aha siyaasad dad kale leeyihiin ama aan soconayn oo aan ummadda u cuntumayn oo aan qaranka u cuntumayn oo aan soomaali u cuntumayn in mataqaanaa si indhanaana loo raaco maantana waxa weeye Kenya soo gelideeda iyo wadamo kaloo soo geli doonaba dhammaan waxay ku soo gelayaan waxa weeye shabaab daraadeed jiritaankooda ayaa wuxuu abuurayaa fursad siinaya cadowga inuu naga faa'iideysto marka waa inay fahmaan gameka ama cayaarta ama dhaantada sida loo dheelo waa inay fahmaan oo ay bahasha wax ka dheelaan oo ay siyaasadda fahmaan markaad eegto sida ay hadallada u kala dhigayaan maxaa kaaga soo baxaya sheekh xasan wuxuu yidhi markii dagaalkii uu ka hadlay kadibna wuxuu yidhi dadkii meesha ku dhintay waan u tacsiyeynaynaa sheekh cali dheerna waa hadlay hadallada seeqada hadalka markaad fiiriso see kugu muuqata horta way caddayd baryahanba shabaab inay kala qaybsan tahay amarada ah in la laayo mutacalimiinta mucalimiinta dhakhaatiirta dadka waxtarka u leh mujtamaca in la laayo waxay ka soo baxdaa waxa weeye dad aan dadkan iyo dalkan ku diir ahayn aan waxba u ahayn waxaa lagu fuliyaa ilmo yarar aan waxba garanayn laakiin ma qabo dadka soomaalida ah ee waxgaradka ah ee shabaab ku jira inay ka soo baxday ama awaamirta noocaana anigu waxaan qabaa xasan daahiri kuwa la midka in ay mataqaanaa ay maaragtay ay ku noqotay arrin lama filaan ah wixii dhacay qaar badan oo ayaga ka mid ah qaarna inay ayagu hashan ay mataqaanaa ay qorsheeyeen oo in dadka la laayo weliba waxaa shaki iga jira war markaad fiiriso shaamo qaraxii ahaa iyo markaad fiiriso qaraxii doraata dhacay ee ka dhacay mataqaan muxuu ahay meeshii hargaha saamaha labaduba waxaa hadafku ahaa dadka waxgaradka ee mutacalimiinta ayuu ahaa yaa marka doonaya mujtamacan inuu baabi'iyo waxgaradkiisa iyo maskaxdiisa iyo aqoontiisa yaa doonaya waxaa muuqata marka groups ama qaybo ka mida shabaab oo ku xiran ama shisheeye ama kuwa aan soomaali ahayn inay arrintaa wadaan usoo laabanayna barnaamijka kusoo laabanayna intaas waxay ahayd arrintii oo qaraxa laakiin arrintan kale oo ku saabsan dhinaca soo gelitaanka dowladdan warar baa adigu tilmaamaya kolleyba Zakariya ayaa mar dhow soo gelaya khadka telefoonka Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo aan u baaqi doono haddii ilaahay yiraahdo inuu ka hadlo waxaan jeclahay khadka telefoonka inaan asaga ku xijiyo si uga hadlo arrintan hadda soo gelitaanka arrinkani ma kugu muuqdaa Soomaaliya lagu soo gelayo wax badan baa waxaa la oranayay Soomaaliya waa la kala qaybi doonaa laba loo kala qaybi doonaa laba dowladood loo kala qaybi doonaa jilicsanaanta dowladda kumeel gaarka ah iyo tabar la-aanta dowladda kumeel gaarka ah iyo iyadoo oo aan xataa si saxa u sheegi karaynin waxa ay doonayso ma kugu muuqataa laftirkeeda inay qayb ka tahay in Soomaaliya mar walba faragelin lagu sameynayo firi xasan dowladda hadda jirta iyo tii ka horreysay oo imbagaati lagu soo dhisayba labaduba waxay hayaan sharciyadda ay ku joogaan ciidamada ajnabiga ah waxa firi taakulaynta ugu weyn ee caalamku bixiyo ama nimanka isku tilmaamay international community-ga ama beesha caalamka ay bixiyaan lama siiyo Soomaalida waxaa la siiyaa dadka ajnabiga ah ciidamada ajnabiga ah Al Jazeera ayaa usbuuci hore report ay soo diyaarisay ayaa waxay sheegtay dhowrkii sano oo tagay Soomaaliya inay ku baxday 55 bilyan oo dollar 55 bilyan oo dollar lacag halkan ku taal ma aha 55 bilyan oo dollar waa lacag Soomaaliya iska daay geeska Afrika oo dhan lagu dhisi karo maxaa marka 55 bilyan war 1 bilyan baa ku filan Soomaaliya in lagu dhiso oo lagu toosiyo oo dawlad loogu dhiso maxaa loo gelin waaye maxaa dawladda loo maalgelin waaye maxaa dawladda xag tababar iyo xag dhismo dhinac walba maxaa loo taakulan waaye dan lagama leh runta haddaa rabto dan lagama leh nimankan waxay hayaan sharciyadaasaa la ilaalsadaa waxaana loo diiday waxa Afrikaanka u joogaan ciidamada ajnabiga u joogaan inaan meeshan wadaad iyo shabaab qabsan gameka dhan hadda nagu socda wuxuu yahay waa containment ama waxa weeye inaan dhinacii dawladda iyo dhinaca al-shabaab ayaa laga baabacsan yahay labadu waa loo baahan yahay labadu waa laga baabacsan yahay laakiin labadu dadka annaga na haysto na qabsaday labadu u baahan yihiin midna cadow way ka dhigteen midna sharciyad buu hayaa midba sharciga u hayaa midna sharciyad u hayaa marka labadu waa loo baahan yahay al-shabaab waaba la gartaba oo ayagu waxayba taagan yihiinba
mowqif cadayba ka qaateenoo inay dagaal wadaan oo ay qaraxyo wadaan oo maanta ugu dambeysay waxbay qarxiyeen laakiin macnaha tusaale ahaan xeebaha markaa barnaamijka xadka badda laga hadlayay nin taliyaha oo admiral qare mowqifka baarlamaanka uu ka yiri meel walba uu ka sheegayo waad arkaysaa dowladda ka tirsan waa taliya ciidan wax badan buu soo jiiday ninkan dowladda kumeel gaarka afkiisa dalka ma ugu heli la'ya ma dhihi la'ya muxuu ahaa inuu yidhaahdo war dalkan aan macnaha dowlad aan sharci ka haysanin baarlamaanka iyo waxaan laga haysanin laguma samayn karo intaas ma la dhihi karin xasan sidaad ula socotaba soomaaliya waxay ku jirtaa maxmiyad trusteeship aan la iclaamin oo khudbasireed ah haye runta haddaad rabto haye soomaaliya waxaa u taliya barasaab mahiiga madaxweyneyaal badanna waa leenahay haye dowladdu waxay haysaa sharciyadda ay ku joogaan ciidamada ajnabiga ah haye waa garad soomaal waa garta marka dowladdu nimanka madaxda ama mas-uuliyiinta sheeganaya wax badan lagalama tashto haye arrinta badan lagala tashan waa la hordhigay waxaa aad arrinta cajiibka waxay ahayd badda arrinteeda in lagu soo daro road mapka waa garta war arrin dib heshiisiin ma ahayd arrin siyaasadeed ma ahayd waa arrin technicala oo wasaarad khaasa ay samayn karto oo weliba aan la wada ogeyn oo aan la wada ogeyn oo aan yiri saxiixa way saxiixa waa arrimaha cajiibka mogtaa inaan dowladda la ixtiraamayn firi inaan dowladda la ixtiraamayn waxaad ku garanaysaa ciidamada Kenya iska soo galay xuduudka iyadoon dowladda loo sheegin ayagoo iska ururda ayaa la soo galay kamana hadli karaan nasiib darrada jirta marka waxa weeye dowladdu ma aha dowladda ay dadka Soomaaliyeed rabaan oo u halqal taageen oo aan leenahay ilaahu noo xooji ma aha dowladdani waa dowlad la doonayo in mataqaanaa arrimo badan lagu fusho waxaan rabaa inta aan Zakariya u gudbin bal inaan dhinaca iyo Dhobley tagno Dhobley hadda waa la socotaa waa meesha dagaalku ka socdo waa si fiican waa meesha la leeyahay isbahaysyadii kala duwana ayaa maaragtay hawsha soo galaya meesha la leeyahay way marka dhinaca Dhobley waxaa ku sugan gudoomiyaha Raskamboni waa taqaanaa Sheekh Axmed Islaam Sheekh Axmed Madoobe waa marka wuxuu ahaa Sheekh Axmed Madoobe nin runtii maxkamadii ku jiray gudoomiye wuxuu ahaa gudoomiye gobolka Jubbada Hoose ee Jubbooyinka haddana waa aragta xisbul islaamna waa ahaa oo waxay asxaab ahaayeen xasan taahir iyo xasan turki iminka dagaalkiiba wadaayo waa ka maaragtay isaga horkacaya markii dambana wuxuu ku biiray ciidamadii Kenya ay tababaraysay farsamayaqaanka ayaa wuxuu leeyahay laakiin waa taa haddaad noo fasaxday aad baad u mahadsan tahay Sheekh Axmed Madoobe ayaan u baaqaynaa oo jooga waa tahay raalli ahaada waa tahay waxaan ku bedelayaa Sheekh Axmed Madoobe raalli ahaw khadka waxaa markan ku jira Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi Sheekh Axmed Madoobena kullaba isagu wuxuu joogaa magaalada Dhobley oo wuxuu faahfaahin naga siin doonaa haddii ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin ciidamada la dagaalamaya oo huwanta oo la socda iyo cidda ku caawinaysa dagaalka bal haddee aan eegno Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ku sugan magaalada Birmingham waxaan u malaynayaa khadka ayaa isbedelaya waana jeclahay in aan mid un inaan qaadano oo Dhobley ku sugan haye Sheekh Axmed Madoobe waxaad nooga warantaa dagaalka sida u socdaa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كل ديال كنت ديال بدل بوكا صعبة وحنا نسمع هذا ديال كي على الله حمله عصير هذا قانون وشيء ونهض ونفرض كرك اللي قال وان سمع هذا ديال كاسي ديال هذا شيء كذا ومركا أنت أفضل يقال وده حيث كل هذا العلماء وكسرين وحنا نسمع وقتي هذا وصل هنا نفرض marka ciidamadiinu weli ma gaarin afmadow soo maaha sabab cilado xagga roobadana daay baan isleeyahay way xaqiiska badan oo lug guriga gala keenay laakiin waxay leedahay awood naga horimanayso uga joognaa ma jirto taasna waxaan isleeyahay hadda saacadaha soo socda waa heli doontaa warbixintaas iyo meelo kale oo ku saabsan Sheekh Axmed ururka Raskamboni waa ognahay in uu ka dagaalamayo gobolada Jubbooyinka
yaa idinku weheliya dagaalka oo hadda idinla wada والله إنما أنا كلمة معها إنما كنت في دورة كمان الجار كديالك نقول كذا ونقول اليوم تقعد قاعدين على ديالك كل السلة حافظة كم رئيسين كان يلفتر كذا وحي بعض ستين دوا طبعا كذي ما كنت أسوي قاعدين دون يسوين برنامج كاسب كله وكان يلا كذا قاعدة ديالك كله وحنس لا يعني وكتشرا مدرا تاكلين إذا صابوا وبدنا هذا حنس لا يلوب يقولون لكن وديال عالمي يلوه كتشرا مركا سيدا ما هو كتشرا marka Kenya kullaba waa ay sheegtay hore way u sheegtay in ciidamadeedu ay doonayaan inay gudaha Soomaaliya kula dagaalamaan al-shabaab marka waxa idin weheliyo oo goobaha idin kula sugan Soomahan ciidamada Kenya dowladda kumeel gaarka ayaa idin kula sugan marka Kenya marka taageero intee lag maxay ma dhinaca cirka ayay idinka taakuleynaysaa miya لا ده وحوالي ما لسه تعرفين كلام لوجيست كده واحد منهم لسه كلامين كلام كده لكن هذا ما كلامه لكن ده أنا نقول وعمر كده ونكتر له marka dagaalka hadda ka sokow dowladda Kenya waxa kaloo jira ururo kale oo iyaguna sheegay inay jubbooyinka joogaan oo ka dagaalamayaan oo aan adikay dowladda ku meel gaarka ahayn marka wax kaloo urura oo dagaalkeedu kula jira miyaa jira ما إذا ما هذا اللي قبل عليه يديس يودين عن كلام هذا ضوالك ودولة في الرجال كذا الأسكاموني إذا كلام هذا ابنه يدولة يقرر كلام كذا على اللي مجران waa garta marka hadafkiinu waa halkee xagee baad ku sii jeedaan هذا كله حنكسر شيء يعني dhulka nimankaan umada Soomaaliyeed in laga dulqaado mana aha arrin jubooyinka ku eedaamid socdo aan rajaynayna cid kasta la dagaalamaysa inaan ku kaalmayn doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u soconayna maaha inaan jubooyinka keliya ka dagaalamayno waanu wadayna annaga ciidamada dowladda kumeel gaarka inta nimankaasi hal tuulo oo Soomaaliya dhib ku hayaan inaan ka zulmaan isku daynaa dhibkaas marka asxaabtiinii hore asxaabtii adiga aad la socon jirtay oo ka mid yahay Sheekh Xasan Turki Sheekh Xasan Daahir Aways raggaas oo dhan maadaama hadda hadafaan aad ka soo horjeedaan miyay jiraan wax xiriir oo arrimahan aad ka samayseen لا لكن عد كستو أرنتاس جرتا وأنا ربنا صاحبنا مانتا جرنا يوصل خلاتك يدبعتوا تستوي حلاف منها تستوي واحد دبعتوا مد صانعها استلكي ولا يعلن عبسي سيارة كلا يدب كلا واحد أرتوا صوب يعني عد كستو منها كاف خلا عشان ينوزع في دك مد وجوزين انتوا أركيد بين اللون وكان لا ما كارتوا عد كستنا وانغرنا وانشوا شهادنا وانشوا هنا marka hada weyn xisbiga ayna waa lagu waxaan xisbiga ka wada jiro waxa kamid ah wadawaato nimankan hayaan umada gacmaha u qabanina ilaa hadda waxaa leeyahay qof kasta oo fahmay khaladkooda waan soo dhaweynaa bal iska daa waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada la marin habaabiyey dhibaatada lagu la gaarsiiyey hadda mushkilada ku jirta inay ka tanaasulaan oo ay u soo noqdaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda khaladkii dhibaatada ku jiraan iyo waxa lagu abuuray jirin ay ka soo tanaasulaan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inuu ku hadlayo ka urur ahaan iyo midka kale ama ciidamada kale isbaahisiga ku jira dowladda kumeelgaarka inaanan cidna waxba u raacaynin saad ogtahayna kuwa saraakiila dagaalka ku qabanay intaan daweyno aan sii dayno kuwa dhaawacoon qabanay aan soo daweyno soo dayno kuwa yaryar hadda waxaa jira aan dagaalka ku qabanay oo 3 ilmo ah oo aan dagaalka ku qabanay hadda aan korin aan u hayno hadda haddaan meel waxbarasho ka gala xataa doonayno inaan waxbarasho u diraa jira cid kasta oo kasoo noqotay aan soo dhaweynayna ma jiro waxa argoosiya ama intiqaama insha allah cidna aan ku samayn doono waa gartay Sheekh Ahmed laakiin waxaan ku weydiin lahaa dad badan ayaa waxa ay leeyihiin oo deegaanada waxa dagaalka intiisa badan wada taangiyada ciidamada Kenya
ciidamo badan oo kenyaatiya ayaa dhoobley iyo goobihiina lagu arkaa arrinkaasi maxaad ka leedahay taagii aragyaayo lama aragyaaba kuwaanu dagaalanay wejin cidda la dagaalantay marka inuu taagi la dagaalamay kala weydiin waa tahay waa ku salaamayaa marka waxaan kaloo ugu dambeyntii ku su-aali lahaa maadaama dagaalkan hadda aada wadaan dowladda kumeel gaarkaana ay hadda idinkula jirto ururkan kale ee azania lagu magacaabo isaga xiriirkiinu waa sidee hadda waad maqlaysay puntland oo 22 dowladood iyo puntland iyo jubbaland iyo maxayland iyo azania waxaan ka maqlayn hotel nema dheeraado nairobi ayaa lagu sheegay iyo nairobi marka wax garoonka ka jira maaha saaxada gudaha soomaaliya wax ka jira maaha marka azania waa waxaan maqlayn laakiin ciddii dowladdu wax doonaysa ama rabto inay wadan qabato ama dagaal baa jira horta ha timaado soo dagaalanta laakiin wax azania la yidhahdo gobolada ka dagaalantaana ma jiro inana leedahay meesha joogaana ma jiro waxaan aqoonsanahayna ma aha laakiin ciddii soomaaliyeed ee gobolka wadanka sheeganaysa ama soomaaliya doonaysa inay dan ka hadasho waan soo dhaweynayna cadowga dhulkaastaa laga kiciyo kabacdina dadku aayahooda ha ka tashadeen oo cidda mas-uul noqonaysa shacabku iyagaa yaqaana laakiin azania midiyahan ka maqlaa anigu saxaafadda baad ka sheegtaan iyadaanan ka maqlaa hoteelada nairobi waana lagu sheegaa azania wax la yidhaha macnaha magaca liftaana garanaynin baxantaa sheekh axmed magaalada dhobley iyo jiidaha hore ayaan khadka teleefon kula xiriiray oo markaasi ka warbixinayay dagaalka iyo halka uu marayo iyo hadafka ay leeyihiin iyo cidda maaragta ku kaalmeynaysa dagaalada ay kala soo horjeedaan xarakada al-shabaab marka waxaan jecelnahay zakariya ayaa khadka ku jira waa guddoomiyaha isbahaysiga dib xoreynta soomaaliyeed zakariya maxamuud xaaji cabdi oo jooga magaalada birmingham caasimada labaad ee wadanka u k ayaa nagala qayb qaadan doona barnaamijka hase ahaatee waxaan jeclahay inaan ku hormariyo professor maxamuud guure macnaha raas kamboni iyo dowladda kumeel gaarka oo isgarabsanaya ayuu leeyahay ayaa socda mar haddii raas kamboni iyo dowladda kumeel gaarka haddii la gaaro hadafkii ma u malaynaysaa inay ku midoobi karaan nidaam laga sameeyo halkaas horta way adag tahay ciidamadan la leeyahay dowladda kumeel gaarkaana ma aha ciidamada dowladda kumeel gaarka ay aqoonsan tahay ciidamadan waa ciidamo waa hore khilaaf ka dhacay oo lagu tababaray mataqaanaa dalka Kenya ujeedooyin khaasana loo tababartay oo inay abuuraan buffer zone ama xisaam amni ay u sameeyaan Kenya oo shabaab maartay isaga celiso haddii hadda ay labadoodu heshiis ku galaan inay jubbooyinka wada qabsadaan waa arrin la arki doono kolleyto marka arrintaas ay suurto gasho sida ay xaaladooda noqoto laakiin ilama aha in biga siyaasadahooda kala gedisan marka aad fiiriso sida ay u dhaqmaan dad ku heshiin kara maamul inay yihiin u malayn maayo waa tahay zakariya waa maqlaysaa soo maha waa ku maqlayaa waa tahay zakariya kolley barnaamijka waad la socotay ayaan filayaa doodihii kala duwanaa waraysyadii kala duwanaa waxaa looga hadlaya waxa ay tahay arrimo kala duwan yaa mas-uul ka ah mar walba faragelintan soomaaliya lagu soo sameynayo marka laga soo bilaabo 1991 ilaa hadda mar walba soomaaliya faragelin baa lagu soo sameynayay hadda macnaha ma la dhihi karaa faragelintan ay ugu dambeyso dowladda Kenya ciidamadeedu inay kasoo gudbeen xadka Soomaaliya waxa keeni kara waxay tahay kala qaybsanaanta iyo isfaham la'aanta dadka Soomaalida ah horta shaki kuma jiro inay muxuu ahaa dhibaatada inteeda badan ay ka timid burburkii dowladda Soomaaliya oo loo adeegsaday dad Soomaaliya ilaa haddana dad Soomaaliya oo kala qaybsan oo qaarkood muxuu ahaa xabasho wataan oo qaarkood Kenya wataan oo qaarkood muxuu ahaa Uganda wataan ayaa sababta ugu weynaa waayo haddii ummadda Soomaaliyeed midaysan tahay ama qarankii Soomaaliyeed dhisnaan lahaa de waxaan ma dhaceen waanu ogeyn awoodda Soomaaliya ay lahayd iyo dowladaha hadda soo galaya siday ahaan jireen markii qarankii Soomaaliyeed jiray waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhowr qodob doodihii hadda aan dhegeysanayay qodobka koowaad
waad xasuusataa nin la yidhaha Dr. Donald Kibrekor oo ku soo qoray Daily Nation waa journaalka ugu weyn waddanka Kenya 3 bishii Oktoobar 2008 maqaal uu leeyahay oo waliba khariidadii Soomaaliya ugu horeyso maapka Soomaaliya oo qaybsan oo qaybna Soomaaliya la siiyay beledweyne laga soo bilaabo ilaa Liboye Kenya qaybta kale oo ka bilaabato Dhuusamareeb ilaa walow yacdana maxaa Ethiopia horta markaas war iska dhaha ma ahayn official waxa lagu soo qoray newspaper oo Kenya ay leedahay waa qodob waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed xasuusinayaa badda Soomaaliya ay leedahay cidii gadatay oo ka saxiixday nimanka hadda dawladda isku sheegayo xamar jooga Kenya yahay oo arintaasina wali taagan tahay oo area hadda ay qabsatay Kenya ama ay ku socoto oo dalka Soomaaliya kamid ah meesha shidaal ku jiro dekad baas jirta laga dhisay meel aad ugu dhegan xuduudeena muxuu ahaa oo laama ku taala oo loogu talagalay in ay halka dawladda Kenya dawlad badan baan involved ku jira waxa weeye qodobka saddexaad Kenya waxay samaysay waxay u bixisay dawlad goboleed Azania la yiraahdo sanad ka hor oo iyadana qorshaheedu ahaa in ay barnaamijka hadda ay fulinayso ay muxuu ahaay fuliso oo ku soo gasho dalka saddexda qodob markaan idin sheego dadka Soomaaliyeed oo leeyihiin Kenya muxuu ahaa maanta dhan intaas ay malaayiin bay haysaa intaas ku qaxday intaas anu waxaan qabaa Kenya number 1 ay Soomaalida ka faa'iideysatay number 2 Soomaalida inayba khalad ahaydba in xadka loo furo way dhulkooda joogi laayeen anu caawadan dhulkayga joogi lahaa iyo adiga xasana iyo malaayiinta kale oo dibadda joogta ama xiriyaha isku xiraysan wadanka waxaan kama dhaceen waxa weeye waa qorshe loogu talagalay in Soomaaliya brain drain ku dhacdo waxay idinaan kaloo sheegin xasanow Soomaalidu waxay Kenya geysay Soomaalidu waxay geysay lacag bay geysay waxay geysay ganacsi waxay geysay muxuu ahaay cilmi bay geysay yani int labada miisaan markii la fiiriyo Kenya ayaa faa'iido qabta waxay la mid tahay arintaasi dadka Soomaaliyeed baa Kenya wax u tartay waxay la mid tahay anoo xasanow inta nacnac ku siiyay kaala wareegay oo kaaga gatay xaaskaagii iyo caruurtaadii iyo gurigaagii iyo beertaadii iyo dalkaagii oo markaa leedahay wallahi ninka Sakariya waa fiican yahay xabad nacnacuusii intaasuna iga qaat hadee intaas waxay la tahay farwa weyn baan ku qoray dadka Soomaaliyeed waa fahmayaan Sakariya aan qaybsanay aan dhameeyo waxa weeye Soomaaliya waa wadan xora oo madax banaan article-ka 1 ee United Nations wuxuu sheegayaa dal madax banaan hadii dal kale ku duulo inuu yahay dambi caalamka oo dhan uu ka galay adduunkuna inuu isugu tagay ayay ahayd anigu ma qabo mashruucan dawladaha waaweyn oo argagixisada la dirirka ah kaliya inay arintu tahay arintu intaa waa ka fog tahay arintu waxa weeye Soomaali in la qaxiyo la baab maxaa loogu aadiyay marka Soomaalida abaartu ku dhacday oo 750 kun oo qof saddexda bilood soo socota ay dhimanayso maxaa loogu aadiyay in lagu duulo midda kale goormay sax noqotay wax yar oo dambi oo dhacay in dal dhan lagu soo duulo ama muxuu ahaa tuugo wax soo afduubtay in ummadan lagu soo duulo waliba waxaanu la soconaa askarta Kenya involved hadda la socotaa ninkii Ingiriiska ahaa oo la dilay xaaskiisana la afduubtay waxa ka dambeeyay ninkii guide-ka u ahaa oo Kenyaatiga ahaa oo wasaaradda tourism-ka ka shaqeynayay haddana isaga loo haystaa dambiga oo maxkamad Kenya saaran marka ma ahan arintani marmarsiyo weeye shabaabna ma calina ma wax kalena ma dalka Soomaaliyana shacbiga Soomaaliyeed baa iska leh Kenyana ma leh shabaabna ma leh waa taagana Sakariya wax badan baad hadashay marka waxaan rabaa dadkuna aad bay daawadayaashu ku maqlayaan laakiin tusaale wuxuu yahay dalka Soomaaliya hadda al-shabaab iyo dawladda ku meel gaarka way al-shabaab iyo dawladda ku meel gaarkana ma wada hadlayaan isma arki karaan dawladda ku meel gaarka ayadii qudeedii may oranayso war dalkii si sharci darra ayaa loo soo galay al-shabaab waxa laga cabsanayo oo magaca lagu soo galay dalka Soomaaliyana waa al-shabaab oo mar walba la leeyahay iyadan ka cabsanayna maxaa eeda loo saaraya dalalkaas man anagu is eedayno firi arintu meesha horta waxaad ka raraysaa caloosha meesha laga rari jiray kuruska waxa weeye dal hadii daris aatiin oo dhibaato kaaga timaado xadkaaga lagu ekaadaa oo ciidanka la geystaa
oo la adkaystaa ee xaq uma laha ninna ama tuuga ka yimaado ama cid kale ha ka timaadee haddii aan ciidan dalkaas ka tirsan oo aggression cad intuu ku soo weeraro Soomaaliya oo kale mesela intay ciidamo soo kaxaysa Kenya ay weerarto oo xadkeeda gasho markaa Kenya xaq way u leedahay inay isdifaacdo ciidanka Soomaaliya inay iska celiso iyadoo waliba xadkeeda aan dhaafayn laakiin dad masaakiin oo shacab oo dawladoodii 1999 kii burburtay waxa hadda dawladda aad ku sheegaysaa dawlad maaha waa nimanka dalkoodii oo maanta la soo galay xaq baa loo leeyahay muxuu ahaa Xasan Carab Ciise Xayd waa maqlaysay xaq bay u leeyihiin inay Kenya soo galaan shariifku wuxuu ku soo dhaweeyay Yusuf Xaaji oo wasiirka difaaca Kenya iyo Moses Wetangula ayuu maanta ku soo dhaweeyay airportka Muqdisho waana aggressors waxaad marka wax weydiinaysaan oo dawladda ku sheegaysaan niman 10,000 oo ciidana oo diyaarado ku yimid oo Ugandaysa xamar ay ku waardeeyaan baad waxa leedahay Kenya lagalama tashan professorka ila fadhiya khadka igu jira professorka ila fadhiya Maxamuud Guure professore dadka Soomaalida waad arkaysaa 20 sanana dawlad la'aan baa haysa oo dawlad shaqeynaysa ma jirto waxa lagu cararayo oo ma caafimaad ahaan loo aaday waa Kenya waxa xuduudda looga gudbayo waa Kenya muxuu ahay qof baahan oo maanta 4 caruur u wata ee jidka uga soo dhinteen oo meel uu hunguri u raadinayo xadkii inuu ka talaabo rabo in maaragtay xuquuqul insaanku ma dhigaya inaad xuduudda inta xirata aad tiraha soo galin meeshaas macnaha ma dhigaya horta marka hore horta Xasan waxa la isku haysto qaxooti ma uma hadii waxaan ka wadaa Dhobley iyo yaa buuxiyay xerada Ifo iyo xagar dheer horta yaa buuxiyay fiiri waxa la isku haysto horta qaxooti ma hadda maxariyo qaxootiga dhibaato ka dhacaysa xuduudka dhinaca kalena horta waa dhul Soomaali baana degan haye xuduudka dhinaca kalena waa dhul Soomaali baana waa la isu talaabaya dadkuna waa ilmaadeer labada dhinacba haye waa la isu talaabaa weligeed la isu talaabi jiray haye waxa qadiyadu ma aha qaxooti ma aha qadiyadu waxa weeye wadan deriskiisa mataqaanaa si dulmi ah ama sharci darro ah ku galay Kenya Soomaaliya ciideeda iyo xorriyadeeda iyo sharciyeeda ku soo xadgudubtay muxuu beesha caalamku u hadli weysay hadda qodobka 11aad ee qaramada maaduu qeexayo maxaa dalkan had waad aragtay wadamada qaarkood marka lagu xadgudbo waa la qayliyaa way Soomaaliya inta Kenya soo gashay ama Ethiopia soo gashay loo qaylin laayay adduunka maanta beesha caalamka aad sheegayso ayaa wadata mashruucan laftigiisaba haye oo Soomaaliya jiritaankeediiba sida Zakariya ka dhawaajay daytan aan sheegay jiritaankeediiba qilqil ku jira haye waxaan rabaa inaan arrin yar aan daawadayaasha aan u sheego waxaa dhacay sanad ka hor mise 2 sano ka hor ayaan television ay leedahay wadanka Ghana dood uu qabtay baan ka qayb galay waxay ahayd aniga gabar Kenyaati ah iyo nin New Zealand u dhashay laakiin dadka u ololeeya Soomaali kala go'eeda markii ay doodda dhamaatay baa gabadhii Kenyaatiga waxay tiri Soomaalida suuqii bay nagu ciriiriyeen oo dhaqaale fara badan oo aanan weligeed Kenya la arag ayay Kenya keeneen markaas maanta dhulkii ma iibsan karno oo iyaga naga boobay oo guriyii ma xataa ma kireysan karnay tiri nolosheena ku qaliyeen Soomaalida waan dhibeen waxaan ku yiri ba intaan shaqooyin idin abuur oo idin barnay sida loo ganacsado oo dalkiina idin dhisnay oo hantideena dhan idin keenay oo khubaradeena idin keenay ayaad maanta sheeganaysaan خلاص waa iska idin ka noqonaynaa baan ku yiri ninkii New Zealand ka haaba wuxuu yiri ma noqonayaan fiiriya ma noqonayaan dadkaasi meelna uma socdaan macnaheedu maxay tahay macnaha waxa weeye adaa soo socda ayagu meelna uma socdaan weey dhulkoodii bay joogaan weey waxa suurtagal ah marka inay jiraan khidado la doonayo Soomaaliya lagu kala jaro 2003 jaamacadda Florida ayaa waxa lagu qabtay shirweyne conference la leeyahay geeska Afrika in laga abuuro hal dawladeed oo Ethiopia la yiraahdo dawladahaas Kenya kuma jiraan naga ku jirnay Soomaaliya Djibouti Eritrea iyo Ethiopia oo garanaysa Soomaaliya mu'aamaradaha weligood jireen marka mar walbana ninka gumaystaha mustacmaristaha wuxuu isticmaalaa dadka kuwa dhuuni raac ah ayaa la isticmaalaa kuwa aan wadaniyada iyo shakhsiyada lahayn ayaa la isticmaalaa sayidka markii Ingiriisku la dagaalamayay oo la yiri waxaan ka dhigaynaa boqor muxuu ku yiri dalka malihid aniga ku yiri doora weynaha waa gartay hadalkaas uu weyn yahay dalka malihid aniga ku yiri doora macnaheedu waxa weeye wadankan ciidan ana iskale adiga igama dhigayso boqor igama dhigi kartid waa gartay afan Soomaali waxaan maanta u baahanahay waxa weeye dadka Soomaaliyeed
inaan iska dayno kana shabaab waxa markay arrintan waxay isaga soo ururaysaa iyo kana hebelowa iyo Zakariya oo ay dhammaantood u duubtaan sidii loo badbaadin lahaa jiritaankooda iyo qarannimadooda taasaa maanta hadalka oo dhan marka wuxuu isugu imaanayaa Soomahan Soomaaliya in ama dal Ethiopia lagu daro ama Kenya lagu daro waxa hadafka dhan isugu imaanaya Soomaaliya dadkii Soomaaliyeed oo macnaha oo kala jeeda oo qolo walbaba maaragtay meeshay doonto ay dhigta u raaricinayso ayaa keenay Soomaali Zakariya waxa weeye xasanow waa sida uu sheegayo walaalkay guure waxa weeyaan horta waxa idinka dhunsan sidiinaba dhulkan hadda aad leedahay Soomaali baa ku qaxday mesela hadda dhulkan Soomaali galbeed la yiraahdo soo dul dad Soomaaliya oo Soomaali dhul degan yahay cid kale deganay Soomaali soo lama bixin oo hadda ka hor dawladaha isticmaalku qarniga 19aad ma dhiibin midka kan hadda aad leedahay Soomaali baa ku qaxday oo dadka Soomaali Kenya ka dhigaysid oo shacbiga Soomaaliyeed degan yahay oo markii iyaga abaar ku dhacdana ay soo galaan muxuu ahaay to dhinacaan iyo Kismaayo ay ka daaqaan xoolahooda kuwan kale markuu ku dhacdana ay xaq tagaan soo kii la bixiyo indhaheeno shana la bixiyay maxaa u bixinaysaa marka soo tan ko 20 ka sano dawladda lagu diidan yahay ma soo tan nin kasto wadan iyo lala diriraayo oo tiim baraal ugu dhufanayo ma oo ninka khaan wadanka la leeyahay waa madaxweyne waa ra'iisul wasaare waa madaxweynaha gobol hebel waa madaxweynaha qabiil hebel muxuu yahay 35 kan madaxweyne oo qabiilada maxay yihiin 35 kan xuduudood oo dalka la kala dhexmariyay maxay yihiin macnaheedu yaani waaba u jeedaa tamhiid badeenu waa go'doon 40 dawladood baa maraakiibtood ku heeraysan yihiin maraakiib dagaal oo muxuu ahaay to miskiinkii u dhashay ee ka kalluumaysanayana waa la dilayaa ama waa la xirayaa oo waxa la geenayaa Kenya lagu xabisayaa ama Holland ama meel kale muxuu ahaa maraakiib waaweyn oo alaab mamnuuca seeto lagu ugaarsadana oo dawladaha leeyeen waa xabsanaya baddaadii waa indhaha gooshana maalin dhow inta la saxiixday Moses Watangola iyo waxa ku saxiixan Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa ku saxiixan warqadda waliba dawladda Kenya ambleemkeeda warqadda ku yaala ambleemka dawladda Soomaaliya kuma yaalo oo ku saxiixan dhulkaas in la bixiyay baddaas in la bixiyay adeero waxa soo dhan oo tilmaamay qoladiina meediyo hadda idinku waxay baahayd caawa inaad sheekaysaan maana dagaalka inaad gashaan oo qori qaadataan oo Soomaali wax ka difaacdaan bay ahayd inaad hadda tiraadaan Kenya muxuu ahaa waxay rabtaa walaalaheen weeyo dhul bay muxuu ahaa dad bay noo haysaa war dadka waa la qaxinaya intaas in 3 milyan oo hadda Kenya iyo adduunka joogta hadday dalka ku jiri lahayd waxaan ma dhacaan dalkuna waa xoroobi lahaa jaajuus yarna inta koofiyad loo geliyo taangil laguma qaadano laba yaraar waa madaxweyne Soomaaliyeed adigoo soo koobaya Zakariya halka adoo faragelin iyo Soomaali haddaan nahay maxaa halkeenu yahay halkeenu muxuu yahay ilaan haddii la yiri beesha caalamkuna ka hadlimaysa haddii ciidamo faragelin ay nagu soo sameeyaan dawladihii dariskana hadafkoodu waa sidaa la yiri annagiina aan isqarxinayno oo aan dagaalamayno oo bulshadeena madaafiic la dhacayno oo aan sidaa isku sameynayno maxaa halkeenu yahay horta annagii ma ahane koox wadaadaawo warloora noqotay weeye annaga markaanu asmara tagno Ethiopia dalka ay soo gashay nimankan hadda 3 qaybood isu qaybiyo magacyada la baxay oo wada shiiqyada ah oo markii ay raadiyaha soo galayaan ka baxaya Faatixada iyo sallallahu alayhi wasallam iyo Quraanka akhrinaya weeye horta dhibaatadu anigu sheekh xabad sita oo dadkiisii leynaya ama dad xataa gaala leynaya oo aan ku soo duulin waligay ma maqal problemku waxa weeye adeer maxaakimta islaamiga nimankii la oran jiray baa kala jabay ayagii baa xukunkii isku haysta ayagii baa ka daraaday warloorada la qaatay way warlooradu qabaa'il bay ahaayeen dalkana ma aysan keenin Ethiopia Kenya nimanka kan kooxda yarta away markii la isku daro kulligood 20 kun oo qof ma dhama dadka muxuu ahaa leedahay annaga aysan shacbiga Soomaaliyeed waa shacbiga la duleynaayo marka aniga waxay ila tahay xal kale ma jiro xalka kaliya jira waxa weeye Soomaali hadday rabto inay jirto oo ay rabto inaysan noqon Red Indianiski America laga baabiyay hadda sidaas ay ku socdaan waxa weeye inay gacmaha isqabsato qabyaaladana ka gudubto jawaasiistu waa dhuuman jirtay waagi dawladdu jirtay ninka jaajuuska hadii la qabto isma sheegi jirin hadii la qabtana waa la dili jiray maxkamad baa la saari jiray jaajuus soo taagan oo jaakad qaba iyo niigtayn iyo koofiyad oo la madaxweynaana weligay ma arag oo barlamaan baana oo xildhibaan baana adduunka intaan ku noolaa ma waa inay dhuuntaan dadka dalka iska leeyahay waa in dalkooda ay difaacaan qabiilka iska daayaan waxa kana ka baxaan xal kale ma jiro Soomaaliya midowda maahane Soomaaliya waa la qaadanayaa
dadkeedana intii badnayd oo macnaha lahaydna waa la qaxiyey inta yaroo martada haddaana waa la qaxinaya xadkaan la furayana khayr inuu yahay u malayn xasan oo horaan kugu yidhi haddii inteena qurbaha joogtaa maanta aan ku jiri lahayn dalka inta hadda xeryaha ku jirtana dalka ay ku jiri lahaayeen soomaaliya saa ma ahaateen waa tahay ma haysteen waa ku mahadcelinayaa Zakariya waa muxuu ahaa fiiri ma iyagaa xamar ka soo degaya asagaa khudbaynaya tirarka xiraya asagaa shirki jeergaraynaya hadda waaba ujeedaay miya muxuu yahay waa shaqaale UN-ta u shaqeeya walda cabdallah wuxuu igu yidhi adeer waxaan ku yidhi warma UN-ta u shaqeysaa mise maraykanka kii kan ka horreeyey markaasuu yidhi adeer aniga iyo banki muunba waxaadan ogeyn maraykanku inuu mushaharka na siiyo midda kale in la isku duulo fiiri faragelin wax yaraa ma jirto waa duulaan weeye waa qabsi weeye waa occupation waa tahay Zakariya inta badan waan ku siiyey waad hadashay aad baan kugu mahadcelinayaa waxaanan kaaga mahadcelinayaa fursadaasi aadna siisay inaad maaragtay khadka nagala qayb qaadato aad baan kuu salaamayaa Zakariya aad baa umahadsantahay waa tahay waxaan u geli doonaa culusow baan u geli doonaa insha allahu tacaala oo ku sugan wadanka Mareykanka oo isaguna maaragtay ka hadli doona hase ahaatee weli waxaan dadka Soomaalida inta badan faragelin bay waxay ka hadlaan faragelin wax walba ay ka hadlaan dhibaatooyin kale ka hadlaan laakiin anigu waxaa inta badan dadka aqoon-yahanada qaarkood ay leeyihiin war ma laga hadlo Soomaalidan sidii la isugu keeni lahaa sidii ay isugu imaan lahayd sidii markaas ay uga badbaadi lahayd dhibaatooyinkan haddartaan baddooda barrigooda iyada lagu hayo taa horta ma laga hadlo maxaa hortaagan baad is leedahay firi horta wadciga Soomaaliya wuu isbedelay xilli waxaa jirtay ay jireen warlooro oo la dhihi karay war waxaan warlooradan qabaa'il bay salka ku hayaan hal isu keeno qabaa'ilka maanta tii waa laga soo gudbay maanta waxaa jira waxa weeye dhulkii waa qaybsan yahay wuxuu u qaybsan yahay qayb ay haysato Amazon hoostaga iyo qayb ay shabaab haysato iyo dhowr maamul goboleed oo iyagu ka madax bannaan oo gooni ah marka waxa weeye yaa la heshiisiiya shabaab ujeedadoodu waxa weeye in aanay dowladdan socon oo dowladdan ay rakaadiso haddaanay xoog ku saari karin dowladdanna ma ridi karto oo Amazon baa waardiyeysa maamul goboleedyada waqooyiga jira ama Somaliland ama Puntland ama Galmudug ama Ximini Xeeb iyagu hadda waa stable waxa weeye laftakoodu xamar bay ka wardhowrayaan waxa ka dhaca xamarna xaaladeedu waa xaaladaad ogtahay yaa marka la heshiisina qabaa'il dagaalsan ma jiraan maantay waxa maantayna hortaagan waxa weeye shabaab iyo nimanka dowladda ku jira oo iyaga labaduba diidan inay mataqaanaa ay inta is hor fariistaan ay wada hadlaan labaduba shabaabna diyaar umaha weli inay dowladda hor fariisato dowladduna diyaar umaha inay shabaab hor fariistaan haddii la heli lahaa marka labadooda inay inta compromise sameeyaan ay wada hadlaan oo ay ku heshiiyaan waxa Soomaali u dana waxa weey waa laga baxaya dhibaatada haddii labadooda kala heshiiyaan maanta labadaas qoodooda is haysta dhibaatada maanta taagan iyo maxmiyad keeba tar maxmiyadan ku jirnaa runta maya harta dhibaatada hadda taagan maxkamadda qudba siraad sheegtay Soomaa maxmiyad la yiraahdo wadankan waa heshiin waaye 20 sano ayuu marayaa macnaha UN-ku ha maamulo iyo midaan hadda Soomaaliya ay ku dhimanayso qaraxyada ku dhacayaano maalin kastaba intaas oo qofood ay dhimanayso keero ha sugin waayo maxmiyad haddii Soomaaliya la gelinayo waxay ugu dhaweyd 2003 markii 60,000 ee ciidamada Mareykanka hogaaminaya la keenay la iskuma dayin xitaa barnaamij siyaasadeed in la sameeyo waad la socotaa xamar joogtay barnaamij siyaasadeed iyo dowladda dib loo dhiso nation building waxaas la iskuma dayin mashruuc kala socday mashruuc la yiraahdo tijaabo waxaan ku ahayn waagaasna la ku tijaabinay waxa la yiraahdo new world order ama mashruuc cusub ee mataqaanaa caalamka haymanada Mareykanka ah ayana la ku tijaabinay kiibaan fashilan maantana waxaan naloo haysto oo madaxa buriska nalakaga dhacay waxa weeye in mashruuci aan fashilinay awgiis aan annaga maanta xisaabtan la ka gudo waa garad Soomaa marka dadka Soomaaliyeed si hadii dhibaatada si looga baxo waxay ku fududahay waxa waaye shabaab in ay aqliga intuu u soo noqdo ay ogolaadaan wada hadal dowladuna inta kursigan ay ku dhagan yihiin inta iska daayaan ay ogolaadaan Soomaali u danayeen oo labadooda ay wada hadlaan oo hadal ku jiray Sheekh Axmed Madoobe Azaniya
qolada la yiraahdo jubbooyinka ayay sheegeen inay xoreynayaan oo waxay sheegteen gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado gudoomiyaha ururka raaskaboonina wuxuu leeyahay maba nimankaas maba naqaano mana aragno meeshaana ma joogaan waa maxaa farqigaas nimanka lagu sheegayo inay yihiin ciidamo dowladeed raaskamboni la socda waa nimanka azania loo tababaray haye azania iyo mabda ahaan wax muxuu ahay ciidamadaas oo loogu talagalay inay ilaaliyaan xuduudka Kenya iyo raaskamboni waxa isu keeni karo ay wadaagi karaan waa arrin cajiib ah horta sax haddii aad loo fiiriyana waxa kaliya labadooda isu keeni kara waxa weeye istiraatiijiyad deegaan ayaa isu keeni karta sax marka xilligan hadda la joogo waxa ay ku wada dagaalaan waxa weeye istiraatiijiyad dhuleed oo ay doonayaan inay shacabka qabsadaan maamul markay noqoto berrito waxaa dhacaya iska horimaad oo waxa weeye azania laftirkeeda waxay u kala jabaysaa intaasoo daa'ifadood waayo iyada laftirkeeda hadda laguma midaysna oo jubbooyinka dhan kuma midaysna oo waa jira niman maamul azania laakiin waxaa jira dad badan oo mucaarad ay leeyihiin oo jubbooyinka degan ay leeyihiin waa tahay oo aan ku qanacsanayn sida wax loo maamulo doctor maxamed maxamuud culisow ayaa khadka isagoo jooga wadanka maraykanka ayuu si toos ugu jiraa doctor culisow kolleyba maraykanka ayaad joogtaa waxaan filayaa barnaamijka qaybo badan in ay ku dhaafeen walow intaan barnaamij soo gelin aan wada hadalnay waxaa laga hadlaya barnaamijku waxay tahay laba arrimood dhinaca Kenya oo ciidamadooda la sheegay in ay soo galeen gudaha Soomaaliya iyo maxaa keenay mar walba faragelin in lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya in Kenya ay soo gasho in Kenya ay gudaha u soo gasho Soomaaliya maxaa sababay ayaad isleedahay doctor maxamed maxamuud culisow hello no digits have been received aad baan ugu xumahay maxamed maxamuud culisow oo aan khadka taleefonka kula xiriirnay hase ahaatee waa ka xumahay khadka ayaan barnaamijka gabagabadiisii ayaynu maraynaa waanu kusoo celinaynaa daqiiqadaha harsan insha allahu tacaala si aan markaasi waxaan rabnaa bal intii aan daawan bal inaan ugu soo celino wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiru dowlaha amniga ee dowladda Kenya oo iyagu hadlay oo iyagoo jooga magaalada Nairobi qalabka warbaahinta ka hadlay sheegayna in ay ku bacsan doonaan al-shabaab gudaha wadanka Soomaaliya waa wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha oo markaasi ka hadlayay magaalada Nairobi maantana waxa soo gaaray magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga nala daawada wasiiru dowlaha amniga iyo wasiirka gaashaandhigga oo ka hadlaya xaaladda soo gelitaanka ciidamada Kenya that if you are attacked by an enemy you have the right to pursue that enemy through hot pursuit and try to reach wherever he is. Not only within the border, between the border of Kenya and Somalia, but also including inland, the towns and all the others, the strategic installations, because that is how the terrorists normally work. To the extent, first and foremost, we are not dealing with a kind of an army, which you can now see. It comes in all forms. It comes in all kinds of disguises. And therefore they can always play all these games. ها way maqlaysaa soo maahan doctor culisow waad mahadsan tahay aad baan kugu mahad celinayaa kolleyba barnaamijka qaybihiisii kale waa ay ku dhaafeen waxaynu wareysanay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya oo aanu ka wareysanay soo gelitaanka ciidamada Kenya al-shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa markaasi hadlay sidoo kale Sheekh Axmed Madoobe oo jooga wada gobolada Jubbooyinka isaguna waa uu ka hadlay arrinta faragelinta waxa ila fadhiya professor Maxamuud Guure oo isaguna nala falanqeynayay marka waxa su'aashu tahay ciidamada Kenya inay soo galaan dalka Soomaaliya
maxay tahay maxaa sabab u ah ayaad isleedahay oo ama etoobiyana ay shalay usoo gashay maantana ay Kenya soo galayaan waa maxay sababta ka dambeysa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay marka ugu horeysa adiga iyo guure iyo intana dhageysanaysaba inaan u mahad celiyo oo salaamo waxay la tahay in sababta ay u soo gashay Kenya iyadu waxay leedahay waxa weeye waxaan difaacanaynaa xuduudkeena iyo nabadgelyada iyo badbaadada dalka Kenya sida hadda wararka ku qoran asayeeshee waxay la tahay haddii la fiiriyo ama sharciga adduunka oo u degsan tilaabada hadda Kenya ay qaaday waa tilaabo ay ku weerartay dalka Soomaaliya ay ku qabsatay ku dhex gashay umaleyn maayo hadda inuu jiro wax sharciya oo u ogolaanaya in dawladda Kenya ciidamadeeda military oo hubaysan iyo kuweeda cirkaaba inay dalka Soomaaliyeed ay u galaan ilaa 120 kilomitir gudaha inaysan jirin haddii hadde dalkeeda laga sameeyay dambiyo waxaa jira nidaamyo iyo dambiga la galay waxa uu yahay iyo sida wax looga qaban karayo waxaa jira shuruucda adduunkuna waa ka hadlaysaa nidaamka siyaasiga adduunkana waa jira dariiqooyinka waxba looga qaban karaana waa jiraan haddii hadda aan xusuusano marka la fiiriyo burcadbadeedku waxay gacanta ku hayaan dad gaaraya ilaa 500-600 oo qofooda ilaa haddana dawladda haysa waxaan weeraraynaa ama aan qabsanaynaa dalka Soomaaliya weli ma maqlin marka dambi waa dhacay oo dad islaameed baa la qafaalay dhibaatooyin waa jira laakiin wax sharciya oo adduunka u saamaxaya in ciidamada cirka iyo dhulkaba ay weeraraan dalka Soomaaliya gudihiisana u galaan 120 kilomitir ma jiro waa tahay laakiin maxay arrintaani beesha caalamka uga hadli weysay qaramada midoobay maxay uga hadli weysay in maaragtay intaas oo kilomitir dhulka Soomaaliya loo soo galo sida la socoto horta iigad ayaa waxaan ka dambeeyay Ethiopia iyo Kenya muddo waday ayagu waxay weydiisteen in tilaabooyin ama military ama hadda koor ciidamo loo fasaxo beesha caalamka iyo golaha amaankuna arrintaas waa ka diiday sababtay uga diideenna waxay ahayd hadda inay fahamsan yihiin muxuu ahay dhibaatada iyo xaaladda meesha jirta marka iyadoo ay beesha caalamku iyo waliba gaar ahaan golaha ammaanku uu ka diiday in wax tilaabooyinkii ay codsadeen ururka midowga Afrika IGAD dawladda Ethiopia dawladda Kenya dawladda Uganda intaas oo dhan waa laga diiday marka tan waxay tahay waa arrin ay ku takrifalayso dawladda Kenya waxaana dhici karta dawladda Ethiopia-na ay ku dayan doonto mar dhaw iyada laftigeeda laakiin waa maxay haddii Kenya ciidamo ka tirsan waddan kale ay geli lahaayeen caalamku waa uu qaylin lahaa ma moodaa sababta keenaysa in Soomaaliya wax kastoo lagu sameeyo looga aamusayo inay tahay tabardarrada dawladdii la dhisay ka muuqata khilaafka iyada ka dhaxeeya iyadoo ah dad isdila dad aan ismaqlin dad maaragtay loo doodi karo loo dacwoon karo in aysan ahayn sababtaas ma tahay midda ka weyn sharciga qaramada midoobay u degsanaa in inta lagu xadgudbo haddana caalamku ka hadli waayo waxa weeye horta waa kula qabaa nasiib darrada weyn oo jirtaaba waxa weeye inaanu ka hadalno dawlad Soomaaliyeed ayaaba hadda khaladka ugu weyn tahay meesha hadda dadka jooga waxay tahay waxa weeye dad oo adigu cabdibila dusha ka saaran darawalkiisana dawladda IGAD ay wado weeye marka adigu askar wala waardiyeynaysa nimanka madaxda IGAD weeye meesha wax yaala ma jirin haddaad akhriso maanta heshiiskii lagu saxeexay xamar uu saxeexay wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaalida leeyahay wasaaradda ka tirsan waxa ku qoran in ma taqaanaa dawladda Ethiopia ay dawladda Kenya loo fasaxay inay meel kasta Soomaaliya ay ka tagi karto marka wax sharciya iyadoo aysan u haysan ayaa dalkii laftigiisii dadkii ku hadlayay magaca dawladda Soomaaliyeed ayaa heshiisyo noocaas oo kala saxiixaya
inta tago laga saxiixayaa wax saacada ku fadhiya xataa iyadoo nairobi laga duulay hal saac ka bacdi haddana aeroboortka looga saxiixay marka inaan ka hadalno dawlad ayaa soomaaliya joogtaa waxay la tahay waa dembi weyn waa dad cabdibilad kor ka saaran baabuurkana waxaa wada iigad ayaguna dadkaasay waardiyeynayaan dad hadda soomaali danaheedii iyo mustaqbalkeeda dhow iyo midka hadda fog ma jiraan ka fakeraya maahan dalka Kenya waa la socotaayo dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool qaxooti badan ayaa jooga xerooyinkii qaxootiga waa la socotaayo markii ra'iisul wasaaraha waddanka Kenya uu tagay qaramada midoobay golaha ammaanka waxa uu codsaday in xerooyin kale la sameeyo maadaama ammaankiina ay damaanad qaadi karin dhibaatooyin badanna ay ku sugan tahay dowladda Kenya waa markii ugu horeysay ee faragelin la yiraahdo way ku soo sameeyay Soomaaliya ma eedda waxaad saaraysaa dowladda Kenya mise dadka Soomaalida oo heshiin waayay isfahmi waayay wax qabsan waayay ayaad saaraysaa horta waxaa loo baahan yahay dadku markay arrimaha qaarkood ka hadlayaan in si fiican loo kala saaro waxa siday kala yihiin dhibaatada Soomaalida dhex taala waxa weeye dhibaato dad badan oo adduunkana taala waana taariikhdana waa lagu soo arkay waana jirtaa dambigu inay wax ku leeyihiin waayo dalkooda inay ilaalsadaan ay ayagu nabadooda ka wada hadlaan laakiin haddana dadku markuu faqri yahay aqoontiisuna ay liidato waxaan shaki ku jirin inaysan sahlaneyn inuu go'aankaas gaaray isla markaasna lagu dhex jiro oo 24 saac dhaqaale iyo been iyo kala qaybin lagu hayo oo laga faa'iideysanayo waxyaabihii markii hore colaadaheedu ku jiray marka laakiin dawladda Kenya waxa weeye dawlad adigu ajnabiya dadku sharci adduun ay leedahay nidaamka adduunka ku shaqeynaysa lamid maahan dadka oo lagu xukumay argagixisada al-shabaab oo kala ma ahan jabhad oo adigu maaragtay hubka qaadatay oo adigu lala dagaalamay maahan waa dawlad looga baahan yahay inay dhowrto shuruucda iyo nidaamka adduunka u yaala marka ayadu dambigeedu waa ka weyn yahay wax walbaba maahan mana u ogolaanayo umana saamaxayo inay ayadu ay tilaabooyinka noocaas oo kala qaado oo ay dalku ilaa xadkaas ay tiraahdo hadda meesha ay tagaysaana ma noqon doonto kaliya 120 ilaa hadda heshiiskii lala saxiixday wuxuu dhinac kasta oo ilaa Muqdisho way ciidamadeedu waa tagi karaan markaan oo waxa ku qoran meel kasta oo Soomaaliya ka tirsan ayay tagi karaan waxa ku qoran in la xaqiijinayo inaysan shabaab mar dambe ay meel aysan ka soo weerin inaysan mar dambe shabaab soo weerinin muxuu ahay dawladda Kenya dalka Kenya marka taas macnaheedu waxa weeye shabaab hadee meel kasta ay joogaan waa dadka Soomaalida ka mid yihiin ilaa dhul kasta ay joogi karaan marka qof kasta oo shabaab lagu tuhmaayo hadduu baraabo joogo baraabo waa tagi karaan markaas waa tahay aad baan ku salaamayaa fursadaas aadna siisay professor Dr. Maxamed Maxamuud Culusow oo waddanka Mareykanka jooga aad baan ku salaamayaa Dr. Culusow waa ku salaam waa tahay haye waa gabagabadii barnaamijka maxaad ku soo gabagabeynaysaa gabagabadu waxay noqonaysaa xasanow soo gelitaanka ciidamada Kenya ee dalkeena inuu yahay sharci darro inaan ummadda Soomaaliyeed sharci ka haysan dawladda miskiinta ay xamar joogtana aanay u ogolaan warqadda hadda uu culus oo sheegay waa iga maqnid aniga kolleyto galabta la saxiixay la tahay mataqaana warqadaasna inay tahay mid maartay khasab ama jujuban looga saxiixay garoonka lagu saxiixay garoonka lagu saxiixay waa aniga kula sawirkaasi hangar way meeshu aniga kulaha way muuqatay marka guud ahaan waxa weeye dadka Soomaaliyeed dalkoodii gacantoodu ka bixi rabaa arinta sida muuqata waxaa xaqiiqa maanta Kenya soo gashay birnin Ethiopia soo galayso waxaa loo baahan yahay marka khilaaf kasta in dhinac la iska dhigo kana shabaaba iyo kana sunna ah iyo kana inaan tameel iska dhigno aan dalkeena iyo sharafteena iyo cirdigeena difaacano waa haday dadnimo jirto oo Soomaalinimo jirto oo islaamnimo jirto war ciidaas naga dhaxayso hadii la waayo diinna hadhowti salaada in la diintiida dhici karta oo quraanka caruurtiina aad baraysan la diintiida dhici karta isaga sharaf ku leedihiin war aan wada difaacano oo aan meel ka soo wada jeesano oo aan heshiino oo qolada dawladda sheeganaysa gogol ha dhigto
oo puntland gogol ha dhigto oo somaliland gogol ha dhigto dhammaanteen waxaan saaranaa isku doon runtii ma jirto cid badbaadaysa from lowyacadda ilaa raskamboni dalku dhammaan waa loo tashtay qolo keliya badbaadaysa ma jirto oo runta xaqiiqada ah marka soomaali inay tashato ay isu timaado inta nabad haysato ayagu gogasha dhigaan inta kalena u yimaadaan ummadda la heshiisiiyo si looga baxa dhibka haddii kale waxay la tahay 10 sano dambe waxaa la waayayaa ogow 30 jirka maanta jira maalintii dowladda dhacday wuxuu ahaa 10 jir 10 sano dambe ninka soo gaaray Soomaaliya dowladnimo wuxuu noqonayaa ninka ugu da'da yar 55 jir 60 jir waxba ma qaban karaan waxaan la sugay inta ay ka dhamaanayaan inta xusuusato inay Soomaaliya dowlad ahaan jirtay waxaan marka u baahanahay waxa weeye war inta ka damqanaysa ee wax garata ee soo martay dowladnimo aragtay dhammaantood inay ka shaqeeyaan oo isku duubmaan oo laga shaqeeyo sidii Soomaaliya loo soo celin lahaa sharafteedii karaamadeedii oo aan iska dulqaabno wahabkana saaran war awooyaasheen dad qiimo badan oo ammaano bay ahaan jireen runtii maantana adduunka waxa weeye waxaan nahay dadka ugu liita oo wadanka ugu qanisan baan leenahay Afrika wadamada ugu qanisan maantana waxa weeye dadkeena gaajo u dhamaanaya waa arrin laga naxaway runtii arrin laga naxaway annagoo badda intaas la eg leh oo wabiyada leh oo macaadinta leh oo petrol kale in maanta dadkeeni caruurteeni maanta 1 milyan oo caruur Soomaaliyeed ay mataqaana qarka u saaray inay dhintaan waa ceeb weey war marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynaa waxa weeye muxuu ahay Kenya maantay namad Kenya aad ogtihiin xaaladda meeshay naga joogtay maantay naguma tacadiseen oo Ethiopia naguma tacadiseen war dalkan waxaan ku faanay inuu leeyahay geesiyaal difaaca weligiisna laha geesiyaal difaaca yaalana doon geesiyaal difaaca war inta geesiyaashii iyo aqoon-yahankii iyo madaxdii dhammaan inta isku duubmaan aan meesha iska qaadno waan salaamantiin waa tahay aad baan kugu mahadcelinayaa professor maxamuud guure oo waqtigaas dheer aad arkaysaan fursadiisa inoo horay aad baan kuu salaamayaa waana kaaga mahadcelinayaa waqtiga dheer aad baad u mahadsantahay barnaamijka qiimaha badan aad soo diyaarisay aad baad u mahadsantahay barnaamijka waxaa nagala qayb galay oo professor maxamuud guure ka sokow wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kumeel gaarka ana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Xuseen Carab waxaa kaloo nagala qayb galay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaa kaloo nagala qayb galay Sheekh Axmed Madoobe oo isagu ah gudoomiyaha Raskamboni horena haddaan dib idin xasuusiyo waxa uu ahaa gudoomiyihii maxkamadaha islaamka ee gobolada Jubbooyinka ayuu ahaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa oo nagala qayb galay gudoomiyaha golaha isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ku sugan magaalada Birmingham waxaan kaloo u mahadcelinaynaa Dr. Maxamuud Culusow oo isaguna barnaamijka nagala qayb qaatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa buriyaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo runtii si wanaagsan inoogu soo duubay sidaas qiimaha badanna inoogu soo gudbiyey qorshahii iyo shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaad kaloo daawateen kilibyo kala duwan oo uu noo soo diyaariyey aan u mahadcelinayo maxamed yare farsamo yaqaanka caawa barnaamijka oo runtii qayb weyn ka geystay in barnaamijkeena uu quruxdaas yeesho islamarkaana wixii faahfaahin ah wixii comments ah wixii dhaliilo ah wixii maaragtay horumar ah ee aad barnaamijkan daawadayaal ku aragtaan waxaad nagala soo xiriiri kartaan falanqaynta @dhacdooyinka.com waxaad ku arki kartaa shaashada hoosteeda falanqaynta @dhacdooyinka.com waxa aad dhaliila wixii horumara noogu soo hagaajiya talooyinka kale aad rabtaan programyada aad isleedihiin maanta wadanka waa laga qaban karaa oo ku saabsan arrimaha kala duwan nagala soo xiriira barnaamijkanina waxaa suurto gelisay shirkadda duulimaadka Jubba Airways shirkadda duulimaadka Jubba Airways ayaa barnaamijkan suurto gelisay oo fududeysay dhammaanteen annagoo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh